أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله صلى الله وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحابته الكرام أجمعين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى ونفعنا بعلمه: باب رفع العلم وظهور الجهل. الحمد لله وهرنتي إلهي سبحانه وتعالى ينوغم هاد علينا مركلة دبي سوكا يسوع عليي سي كتاب كان صحيح البخاري هل كيسي أن أقوض أنه سفر كي حجك فترة سنة كلا دحق الشيء كبعد. نسأل الله تعالى أن يرزقنا جميعا حجا مبرورا وعملا مشكورا وذنبا مغفورا. إلهنا سبحانه وتعالى وحمد سننا كتابك البخاري sida bilowgiisiiba ilaahay uu noo makaniyey oo noo suurtageliyey oo si nabadgelyo ah noogu bilaabay inuu ilaahay si nabadgelyo ah ilaahay uu noogu dhammaystiro qabuulna ilaahay uu nasiyo ilaahay naga aqbalo subxaanahu wa tacaala. xalqadan hadda aan u fadhino waa xalqadii 16aad ama darsigii casharkii 16aad ee kitaabkeennii saxiixu albukhaari. waxaan ka soo qaadanay ilaa 15 xalqo. xalqadan 16aad waxaa imaamu albukhaari raximah اllahu tacaala uga hadli doonaa baabu rafci اlcilmi wa duhuuri اljahli. haadaa midkani baabu rafci اlcilmi, cilmiga koryeelkiisii ayuu u baab yahay, iyo wa duhuuri اljahli bimacnaa fushuwi اljahli, jahliga faafidiisiina waa u baab. imaamu albukhaari raximah اllahu tacaala weli waxa uu ku dhex jiraa abwaabtii cilmiga. halkan wuxuu uga hadli doonaa cilmiga in aakhiru zamaanka la kor yeeli doono oo adduunyadaba laga baabi'in doono. markii cilmiga la baabi'iyana badiilkiisu uu noqon doono jahligu inuu faafo. waxa weeye koonkan waxa uu ku dhisan yahay oo uu ku camiran yahay oo ilaahay uu ku camiray subxaanahu wa tacaala wujuudkiisa iyo jiritaankiisa waa nuurka cilmiga. haddii nuurka cilmiga iyo dadka ahlulcilmiga ah ilaahay uu ka qaado adduunyada dhan waxay noqonaya adduunyo kharaab oo wax faa'iida aan lahayn oo dad juhalo ah iyo dad ashraar ah oo ahlu sharuhu ay soo hareen. walidaalika marka baabkan sheekhu wuxuu u caqiday imaamu albukhaari raximah اllahu tacaala wuxuu ula jeedaa waa alxahu calaa tacallumi اlcilmi qabla rafcihi. wuxuu ula jeedaa sheekha inuu dadka ku booriyo cilmiga barashadiisa inta aan la kor yeelin cilmiga oo adduunka dhan ba aan laga qaadin. hadda cilmiga koryeelkiisana macnaha loola jeedo waxaa weeye sida axaadiista soo socota ay noo caddayn doonto waa dadka ahlulcilmiga in geerida lagu badiyo oo culimmadu ay dhintaan. dadka culimmada in geerida lagu badiyo oo culimmadu ay geeriyoodaan oo dad juhalaahi ay isku soo haraan. nidaamkaas iyo habkaasaa ilaahay u kor yeelaa cilmiga subxaanahu wa tacaala. wa qaala rabiica wuxuu yidhi waa shay min shuyuukhi alimaami maalik raximahu اllahu tacaala. imaam maalik mashaayikhdiisii uu ka mid yahay. waxaa la yidhaha rabiica ibnu cabdiraxmaan alfaqiihu almadani almacruuf birabiicati ra'yi. wuxuu ku magac dheer yahay rabiicatu ra'yi la yidhaha. rabiicatu ra'yi waxaa loogu magacaabay waa likahrati ishtiqaalihi bilijtihaad. istinbaadka iyo ijtihaadkuu aad ugu dadaali jiray oo masaa'il fara badan oo si daqiiqa mooye aan si kaleba looga fahmi karin kitaabka iyo sunnaha ayuu aad ra'yigiisa ugala soo bixi jiray rabiicatu ra'yi. wa qaala rabiica isnaadkana hadda waa isnaad mucallaqa maxaa yeele imaamu albukhaari raximah اllahu tacaala sooma gaarin rabiica waa shaykhii maalik. wa qaala rabiicatu wuxuu yidhi mar haddii siiqatuljasmi uu ku wariyana waan soo qaadanay oo isnaadka waa iska saxiix. wa qaala rabiicatu rabiica wuxuu yidhi laa yenbagii liaxadin axad uma habboona axadkaasoo cindahu agtiisa shay-un shay uu ahaaday shaygaasoo min alcilmi cilmiga ka mida an yudayica nafsahu inuu naftiisa dayaco uma haboono. qof wax yar oo cilmiyaba haysta, wax yar oo cilmiga qofkii ilaahay ku arsuqay uma habboonuu yidhi rabiica inuu naftiisa dayaco. hadalkaa rabiica ixtimaalaad iyo towjiihaad fara badan ay culimmadu ku fasireen. macnaha ugu mashhuursanna waxa weeye oo cibaaradana aad laa'iq ugu ah hadalka rabiica, qofka haddiiba qayb cilmiga ka mida ilaahay uu baray ma aha inuu naftiisa dayaco. oo naftiisa see u dayici? waa inuu isaga tago cilmigii ilaahay ku manaystay inuusan faafinoo gurigiisa ula fadhiisto. qofku haddii qayb cilmiga ka mida ilaahay uu ku manaystay oo nicmadaa ilaahay uu siiyey oo haddana cilmigii faafintiisii uu ka fadhiisto gurigiisa uu la fadhiisto waa min baabi tadyiici linafsih. naftiisuu dayacay.
maxaa yeelay naftiisii wuxuu ka hoojiyey oo uu ka qadiyey abwaab fara badan oo ilaahay ridihiisa lagu gaari lahaa abwaab fara badan oo u furmi lahaa oo ilaahay subxaanahu wa tacaala agtiisa futuuxaad iyo ridaha ilaahay uu ku gaari lahaa ayuu naftiisii ka xayiray marka waa min baab tadyiici ilcilmi cilmigoo la faafin waayo waa qofka min baab tadyiici nafsi naftiisii uu qofku dayacay ixtimaalaad fara badan hadalkan uu leeyahay kaasaa ugu mashhuursan walidaalika xaafidka wuxuu leeyahay raximah اllahu tacaala wa muraadu rabiica muraadka hadalka uu ka leeyahay waxaa weeye ana man kaana fiihi fahmun wa qaabiliyat lilcilmi macnahaasna wuu ku fasiray sheekha qofkii cilmigaba fahmi kara waa daalibulcilmiga markaa loola jeedaahe laa yenbagii lahu uma habboona an yuhmila nafsahu naftiisa inuu ihmaaliyo oo fayatruka uu isaga tago alishtiqaala cilmiga inuu ku mashquulo uu isaga tago lianlaa yu-addiya daalika kaasi uusan gaarsiin ilaa rafci ilcilmi oo hadduu cilmiga baran waayo dee culimmadiiyaa geeriyoonaysa saasuuna jaahil ku noqon ow amase muraaduhu rabiica muraadkiisa waxaa weeye alxahu calaa nashri اlcilmi fii ahlih waa dadka culimmadu inay cilmiga faafiyaan oo ahlkiisa ay ku faafiyaan uu ku boorin lianlaa yamuuta alcaalimu qofka caalimku si uusan u dhiman qabla dalik intuusan cilmiga faafin si uusan u dhiman oo fa yu-addiya uu gaarsiiyo ilaa rafci اlcilmi ow muraadu ama sheekha muraadkiisu waa an yushira alcaalimu nafsa caalimku inuu naftiisa caan ka dhigo shuhreeyo wayatasadaa uuna u banbaxo lilakhdi canhu in cilmiga laga qaato lianlaa yadiica cilmuhu si uusan cilmigiisa u dayacmin qaala alimaamu albukhaari raximah اllahu tacaala xadaثanaa cimraan bnu maysarata albasri cimraan bnu maysarata albasri imaamu albukhaari raximah اllahu tacaala iyo abu daawuud labadaas rijaashooduu ka mid yahay qaala wuxuu yihi cimraan xadaثanaa cabdulwaariث wa cabdulwaariث bnu saciid albasri aladi takarara kahiira wa miraaran fi saxiixi muslim can abi tayaax abi tayaax waa yaziid bnu ziyaada yaziid ibnu ziyaada abi tayaax la yidhaah waa kunyadiisa abi tayaax kunyadan keligeed sheekhan isaga un baa lagu kunyeeyey yacni kutubu sita oo dhan lixda kitaaba ummahaatu sita wax abi tayaax raawi la yidhaah sheekhan un baa ka jira abi tayaax wax lagu kunyeeyo waana min rijaali اljamaaca oo shuyuukhda dhan a wax ka wariyeen can anasin qaal qaala rasuulu llaahi salى اllahu wslam wbaaraka calayh wuxuu yidhi ina min ashraadi saacati saacadda calaamaadkeeda waxaa ka mid ah an yurfaca alcilm in cilmiga la kor yeelo oo cilmigana nidaamka loo kor yeelayo waxaa weeye bimowti اlculamaa waa dadka culimmada geeridu inay ku bataan oo juhaladu ay soo haraan wayahbuta aljahlu jahliguna uu sugnaado ardada uu ku faafo jahligu wayushraba alkhamru khamrada in la cabo ayaa calaamaadka qiyaamaha ka mid oo shurbu lkhamri uu farabato wayadhara azina bimacna alfushuwiya loola jeedaa duhuurka yadhara bimacnaa yafshuwa azina zinaduna inay faafto arrimahaasoo dhan waxay ka mid yihiin calaamaadka saacadda qiyaamaha in cilmiga la kor yeelo khamraduna ma cabitaankeedu uu bato zinaduna ay farabadato dhammaantood waxay ka mid yihiin min ashraadi saaca marka xadiiskani wuxuu ka mid yahay axaadiista tusinaysa fadiilada cilmiga ka mid taha maxaa yeele cilmi haddii la waayo saacaddii qiyaamahaba kacaysa weye nuurka cilmiga ayaa ilaahay subxaanahu wa tacaala adduunyada uu ku camiray qaala alimaamu albukhaari raximah اllahu tacaala xadaثanaa musadad ibnu musahradkii aan in badan soo qaadan jirnay qaala wuxuu yihi xadaثanaa yaxya yaxyahaas laba yaxyaa iska iskaal gasha inta badan laakiin yaxyahan maxaa loola jeedaa yaxya bnu saciid alqaطaan oo maxaa u daliilan ku fahmnay inuu sidaa yahay wاlآakharu اlqaطaanu canhu xadadu ibn اlmuhanaa wakada almusadadu marba haddii musadad oo kale iyo ibn moxamed ibn muhanaa iyo ay wax ka wariyaan yaxya bnu saciid alqaطaan min a'imaةi اljarxi watacdiil kaana yakhtimu kula yowmi wayadcuu lialfi insaan maalin walbou qur-aanka dhammayn jiray kun qof oo axbaabtiisa iyo jamaacadiisa ka midana waa u ducayn jiray sheekha caadadiis taasaa ka mid ahayd yaxya bnu saciid alqaطaan can shucbaة bn اlxajaaj amiir اlmu'miniin fi اlxadiis can qataadة bni dicaamati الsaduusi waa taabicigii indhoolaha ahaa can anasin qaal la uxadiثannakum idin sheegay xadiisan xadiiskaasoo laa yuxadiثukum axadun axad uusan idiin sheegaynin axadkaasoo bacdii aniga iga dambeeya xadiis qof aniga iga dambeeya uusan idiin sheegi doonin ayaan idiin sheegi oo cibaarada anas ibnu maalik raximah اllahu tacaala wuxuu ula jeedaa anas wuxuu sidaa u leeyahay liannahu kaana aakhira man maata bilbasrati min asaxaaba cumrigiisaa dheeraaday oo qof basro ku dhintoo saxaabiya asagaaba ugu dambeeyey marka wuxuu leeyahay meeshan hadda marka khitaabkani wuxuu la khidaabayey dadkii ahlulbasraha ahaa dad marka ahlulbasro ah ahlulbasro marka keligii isagaaba ka noolaa wax saxaabiyaba
wax saxaabi oo nabiga arkay sallallahu alayhi wasallam isaga markaa noolaa marka wuxuu leeyahay qof kale oo saxaabi oo xadiiskan idin sheegi doona ma jire xadiiskan aan idin sheego oo xifdiya oo ihtimaam siiya سمعت رسول الله المقلي صلى الله عليه وسلم يقول حالو ليه من أشراط الساعة ساعد علامات كده وحاكمها أن يقل العلم إنه يراده ويظهر الجهل يقول أوفافه بمعنى الفشو يا ظهور كل رجل جهل أوفافه ويظهر الزنا دون إفافته وتكثر النساء ضمر كنا فربتان ويقل الرجال رقنا أي يرادان حتى يكون ل50 إلى كنتن أيوغا هذا امرأة من امرأة هوينية القيم مد وإستاغا أرمه هذا كاسو الواحد كليس إلى كنتن هوينة سيدا رقوا أي يرانيان دمر كنا يفر بدنيان إلى كنتن هوينة هل نن كلية وأرن كودا وإستاغي أرمها صدى وحكم هنا علامات قيامها ولجدد بخاري رحمه الله تعالى هذا وكليه هنا وحوي أن يقل العلم ذاسو وعلمك أنتو سنيرانين إنه يعني الشيخ ودتك وكبورنا إن علمك الله برته oo lagu dadaalo dadka ahlul cilmiga intaysan geeriyoonin laga faa'iideysto waxa kale oo kamida sida nabiga sallallahu alayhi wasallam barak alayhi xadiiska riwaayadan uu noogu sheegay in dumarku aakhiru zamaanku ay badanayaan ragguna markaas ay yaraanayaan oo ujeedada sida keenaysa waxa weeye dagaalada iyo xuruubta ayaa aad u fara badanaya dagaalada iyo xuruubtaana inta badan waxaa gelaya marka raggii sidaas ay u baaba'ayaan waxaana soo haraya dad dumara iyo rag aad u faraq futirisa ayaa soo haraya ilaa 50 haweenu markaa uu ku soo aado arrimahooda iyo biilkooda iyo xanaanadooda uu u istaago hal nin oo kali ah wuxuu yiri imaam sheekhan ibn Hajar al-Asqalani rahimahullahu ta'ala wa ka'anna hadhihi al-umur al-khamsa arrimahan shanta ah ee xadiisku sheegay waa iyadoo khusad lagu gaar yeelay bidikri likownaha mush'iratan bi ikhtilal al-umur arrimahan shanta waxay dareensiinayaan arrimaha dhan inay yani nusqaamayaan oo adduunka dhan nusqaan ay ku dhacayso التي يحصل بحفظها صلاح المعاش والمعاد وهي أرمها الدين دينك إنه يعني هدور داوع جارو الدينك إنه باباي لأن رفع العلم يخل به دينك نسقامنا هو دبعت جارسين والعقل هذا نوع عقلي لأن شرب الخمر يخل به خمر هذه اللعبة عقلي يا باباي والنسب هذا النسب كيوي يعني أصوشة 5 وباباي آخر زمان لأن الزنا يخل به زنا هذا فرباطه نسب كيا اختلاط سمينا نسب كيا اسكن حياعي والنفس والمال لأن كثرة الفتن تخل بهما فتنت يدقالده هذي فربطان نفسي يمالكي أي بابا أيو قال الكرماني وحر وإنما كان اختلال هذه الأمور أرمها اختلال كيدو وحو هذه مؤذنا مد أوغيسينا بخراب العالم عالم كانوا خرب بدونه لأن الخلق مخلوقة لا يتركون لقتك ما هملا يقول سب بلاش لقتك ما يو arrimahaas caalamku ku taagnaa oo diintii iyo nasabkii iyo aqligu iyo caalamku ku taagnaa kuwa hadii ikhtilaal galana caalamka wala halaagiba wala nabiy majra ba'da nabiyina sallallahu alayhi wa sallam alayhi ajma'in fayata'ayyanu dhalik وقال القرطبي وحر في المفهم في هذا الحديث وحكسوا علم من أعلام النبوة علامة كميدة يعني علامات كي النبي صلى الله عليه وسلم معجزات كالنبي كميدة صلى الله عليه وسلم إذا أخبر رسولك وحكور رمي صلى الله عليه وسلم عن أمور ستقع الرمد عدونا فوقعت الرميهنا وادعين خصوصا في هذه الأزمان وقال القرطبي وحر في تذكرة يحتمل حصور تقل أن يراد بالقيم إن لرجهه من يقوم عليهن ضمرك الروح يستاق حقه سواء كنا موضوعات أم لا أما موضوعات هنقضوها يعني جماعهان هو يستاقوا أما النفقهان هو يستاقوا ويحتمل حصور تقل أن يكون ذلك يقع في زمان إنه دونه الذي لا يبقى فيه من يقول الله الله إن كنت ناقود يعني قف قبي وجري دونه xilliga qof tawxiid qiraayaba adduunka uusan ku soo harinba oo gaalo iyo ashraar ay soo harayaano oo diintii oo dhan laga koryeelayo adduunka fayatazawwaju alwaahidu halnina wuxuu iska guursanaa bighayri adadin xisaab la'aan oo dumara ayuu iska guursanaa jahlan bil hukm sharci isagoo xukunkii sharciga dadku jaahil ay ka yihiin qultu waxaan yiri xaafidku waqad wujida dalika arrinkaas waa la helaba adad la'aan dad iska nikaaxsanaya min bacdi umaraa'i turkumaan madaxdii turkumaanka qayb kamid ah arrimahaas laga helay waqayrihi min ahli hada zaman زمن كان يبدعدي مع دعواه الإسلام سوى قف كاسن إسلام ما شيغانايا والله المستعان إله لا كالمو ويديستا باب فضل العلم هذا مثل باب فضل العلم علمك زيادة داس أي أباب يهي هذا فضل كان أولجيدة لغلي يهي وبمعنى الزيادة سيدا حافظك وكفسري زيادة لولجيدة هي فضلك ولولجيدة بمعنى المزية والفضيلة درجة دي لولمجيدة الفضل هنا بمعنى الزيادة أي ما فضل عنه
والفضل الذي تقدم في أول كتاب العلم بمعنى الفضيلة وهكاس فضل هرنا وصور مري أول كتاب العلم بمعنى الفضيلة فلا يظن يعني لهم ملاين أنه كرره شيخ نسوع العلي وفضل العلم وبصور شيء هذا محيط هاي يجدد معها وفضل وزيادة علم جو وعلم وحي زيادة وكسوهرة أي اللولج. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا سعيد بن عفير ومن باب النسبة إلى الجد على شيخ أبيه وحليه جري سعيد بن كثير سعيد بن كثير بن عمير سعيد بن كثير بن عفير المصري هران وسوق قادن جن الشيوخ ده هران وسوق قادن وكمدها قال وحور سعيد حدثني الليث والليث بن سعد المصري وهر مصري عن عقيل الرحال وعقيل بن خالد المصري عن ابن شهاب الزهري تابعي مشهور عن حمزة بن عبد الله حمزة بن عبد الله بن عمر بن الخطاب ومن نسل سيدنا عمر بن الخطاب أولادي سيو كمدة وأنا سومر الجرني ومن رجال الجماعة المدني أن ابن عمر عبد الله بن عمر قال وحوري سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بين وقت أنا أقول نائما أن هرديو وتيت وحل إلي مد الله إيكين بقدح اللبانين ويلعاناها الله إيكين ويلعانا كجران أي الله إيكين فشربت وان عبي حتى أنتي أن عبي إني أن أقول أرى أن أركيو الريا دركتي بأن أركيو يخرج حال دركتو وكبح يبا في أطفاري عجيه قد إحدى دركتو يكبح يان دركتي جيركيجي intay soo kala camimtay jirkaygii oo dhan ay kala gaartay ilaa cidiyihii xataa dheregtu ay soo gaartay ayaan arkay uu yiri rasuulku sallallahu alayhi wasallam anigoo hurdaya ayaan caanaha ka dhergay ilaa dheregtii xataa ay jirkaygoo dhan kala gaartay thumma markaa ka bacdi acdaytu fadli hambadaydii wixii ziyaadaha oo dheeraad baahidayda ka ziyaada ahaa oo caanihii ka soo haro hambadaydii hambada dheeraadka waxaan siiyey Umar ibn al-Khattab عمر بن الخطاب والرؤية دي دحدة ديو قالوا مركاسي صحابتي وحي راهين فما أولته محاتكو أول شيء ما رأيته وحاس أدركتي محاتكو أول شيء يا رسول الله رسولك إلهيو قالوا رسولك صلى الله عليه وسلم العلم أولته العلم علم كانكو أولي وحوي وحياله إلهي سبحانه وتعالى زياداتك علمك إلهي وقم أن يستوي علمك ديراتك وإلهي إستيي qaybo ka mid ah in sayidina Umar ibn al-Khattab ilaahay uu ku manaystay subhanahu wa ta'ala isagana aan baray kaasan ku awilay rasuulku sallallahu alayhi wasallam waxa ay munaasaba ka dhaxayso waa munaasaba bayna al-labani wal-ilm caanaha iyo cilmiga munaasaba ka dhaxaysa ilaa labada shay oo la isku awilayo xagga ru'yada waa in wax munaasaba ay jiraan munaasabada ka dhaxaysa waxa weeye al-labanu waa qidaa'un nufus naftay yaani kubciyaan oo nufuustay waxay u yihiin yaani كبعين إيا بربارين كما أن العلم غذاء القلوب سيدا علمه يسونا كبعيه أو برباريه قلبه أو برباريه قلبه علمه إلهي كحرا قلبه وينيا قلبه عجليا علمه وإيمانك زيادية مركا لنا عاسى يعني ليس شبه إلا بدو دو مركا أشياء اللي يسكف السيرة حق الرؤية وإنه وح جامعه مركا جيران قال ابن المنير وحويري وجه الفضيلة للعلم في الحديث فضيلة العلم وجهك لو فهمها من جهة أنه عبر عن العلم وحكى عبري بأنه فضلة النبي هم بدي النبي صلى الله عليه وسلم وحلق عبري علمي علمي مكان دي سي منزلة دي سألقى فهمي لا هم بدي علمي ووحق هم بدي النبي صلى الله عليه وسلم ووحق لأهو ونصيب مما آتاه الله وناهيك بذلك هاساك وغفلا فضل يقيمك وغفلا هم بدي النبي صلى الله عليه وسلم انتهى وهذا قاله بناء على أن المراد بالفضل الفضيلة إن لو لجد أساس الشيخ كل شيء وفضل باب كان باب فضل العلم إن لو لجد فضيلة وغفل لكن شيخ وحوها المامي عن النكتة المتقدمة فإذا دي سهر مرتوها المامي فإذا يعني فضل إن لو لجد ماشا بمعنى الزيادة وأن لو لجد بمعنى الفضيلة وأن لو لجد قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب الفتيا وهو واقف على الدابة وغيرها هذا مثل باب الفتيا جوابي أي بابي والحال وعالمك افتوضه هو عالمك واقف على الدابة الدابة وكدل تاغنيهي وغيرها دابة غير كيدنا وكدل تاغنيهي ولي أبوابتي علمي والشيخ وكل حجراه باب كان شيخ وحوقه هذا للدونا إنه يبنانت هاي قفك عالمك إساقو تاغن دابة غير كيد بإساقو تاغن إنه علمك افتوضه ومسألة وجوابه تاسنا أي سنهين سوء الأدب تاسنا أي سنهين يعني مربى هذه حاجة يباهدو أي كين يسوقف عالمك يسوي دابت سارا مسألة لويديو إنه مسألة دي وإفتونا أيه سيد النبي بكسر ناتي صلى الله وسلم وبارك عليه
قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا إسماعيل وإسماعيل ابن أبي أويس وابن أخت مالك إمام مالك شيخي وأبتغى وأهاو إمام مالك شيخي أبتغى وأهاو صمر جرني إسماعيل بن أبي أويس قال وحول إسماعيل بن أبي أويس حدثني مالك وأبتغيس علمك كقاضي جرين تبضا حدثني مالك عن ابن الشهاب الزهري عن عيسى بن طلحة بن عبيد الله عيسى بن طلحة بن عبيد الله وأخوه موسى بن طلحة بن عبيد الله صمر جرني محمد بن طلحة بن عبيد الله ومشايخ كل جود ماركتا ولا لا عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وبارك عليه وقف وحو استاغي رسولك صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع حجكي سغوتينتا أيو استاغي بمنن في من الدحديد استاغي رسولك صلى الله عليه وسلم للناس لأجل الناس ضدك درتود سي ugu iftoodo ayuu halka u istaagay يسألونه ضدك حال رسولك صلى الله عليه وسلم أي وحويدينيان فجاءه رسولك صلى الله عليه وسلم رجل ننا ويمد فقال لنك وحيري لم أشعر ما أنا أغين رسولك الله صلى الله عليه وسلم فحلقت تنتي عن حيرتي قبل أن أذبح انت أنا قورعين الهدي حوله هدي انت أنا قورعين كهر أيان حلقي سميي وان حيرتي انت أنا هدي أنا قورعين فقال مركز رسولك صلى الله عليه وسلم وحيري اذبح اسك قورع ولا حرج عليك واحد دنبي مشقانا دوش هذا مساره قورعاس يعني هذا السميسو wax mashaqaa ma saarno inaad xalqiga hormarisana way bannaan tahay inaad gowraca hadiga yacni aad hormarisana way bannaan tahay maxaa yeele dawaafka dawaaful ifaada ee maalinta tobanaad la samaynayo iyo ramyiga oo yacni la samaynayo maalinta tobanaad iyo xalqiga oo la samaynayo maalinta tobanaad iyo hadiga oo la gowracayo maalinta tobanaad acmaasha afarta ah kii aad doontaad hormarin kartaa haddaad doonto dawaafka hormari haddaad doonto gowraca hormari haddaad doonto xalqiga hormari haddii aad doonto ramyiga hormari مسائلkaas oo dhan nabiga sallallahu alayhi wasallam hadii wax laga weydiiyo wuxuu dhihi jiray hebel aan hormari hadii la yiraahdo wuxuu dhihi jiray rasuulka sallallahu alayhi wasallam ifcal wala haraj hadii yaani malahan kuma dambaabeysid inta waa ansixi fajaa akharu nin kale hadana yimid faqala ninkii kale hadana wuxuu yiri lama shurma aanan ogeyn oo fanaxartu waan gowracay qabla an armiya intaanan dhagax tuurkii jamratul aqaba intaanan tuuran ka horan gowrici sameeyay فقال مركز رسول صلى الله عليه وسلم وحيري ارمي دغح هذا تورا ولا حرج عليك وحرج يعني دنبي دوش هذا مسارا فما سئل النبي قال لما ويدين صلى الله عليه وسلم عن شيء قاسو قدم لهرمريي ولا أخر لقدال مريي إلا قال مالنتا وحو دهي رسول صلى الله عليه وسلم افعل ولا حرج ساسو دهي مالنتا أعماش الله سمينا يودن هب وحسن هرمري قف كيرا دوافكي أن هرمريي gowricina waan gadaal mariyey ramyigii aan hormariyey xalqigii aan hormariyey acmaasha haddii la weydiiyo rasuulka sala allahu alayh wasalam wuxuu dhahayay ifcal walaa xaraj marka imaam albukhaari raximah llahu tacaala ulajeedada iyo maxalu shaahidkiisa waxa weeye baabulfutyaa wahuwa waaqif cala daaba waqafa fii xajati alwadaac rasuulku markuu masaa'ilka iftoonayey sala allahu alayh wasalam wuu taagnaa laakiin xadiiska kuma sugna sida bukhaari uu tarjamaystay cala daaba lafdiga xadiiska iyo matniga xadiiska kuma sugna marka taa waxaa looga jawaabiyo laleeyahay bukhaari wuxuu ku xawilay riwaayo kala jirto daabadu ku soo aroortay oo sheekhuna uu noogu keeni doono kitaabulxaj riwaayo kale oo lafdu daaba oo markaa raawigu uu leeyahay kaana calaa naaqatihi rasuulku wuxuu saaraa hashiisii dusheedu rasuulku saaraa sala allahu calayhi wasalam oo markaas waxaaba noo iman doontaba baabulfutya cala daabati cinda aljamrati baabulfutya على الدابة عند الجمرة باب كاسو بخاري وكسو أرين دون لفظ الدابة رواية داسو كحولي قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب من أجاب الفتية بإشارة اليد والرأس هذا مثل كان باب من شخصي أبابيها شخصي كاسو أجيبي الفتية فتية دي كجوابي بإشارة اليد قعنت إشارة دي دينا كجوابي والرأس مدح إشارة دي سينا كجوابي abwaabtii cilmigu sheekhu weli ku dhex jiraa baabkan sheekhu wuxuu uga hadli doonaa inay caalimka u bannaan tahay inuu fii bacdi alaxwaal inuu ishaare isaga jawaabo oo su'aal adabna ma noqonayso waxbaa la weydiiyey gacantuu ishaaray waxaas waa bannaan yihiin ama madaxuu ishaaray arrinkaas inuu bannaan yahay ama inuusan bannaanayn inuu madaxii ishaaray intaba way bannaan tahay qofka caalimka ishaaray inuu ku jawaabo qaala alimaamu albukhaari raximahu llahu tacaala xadaثana muusa bnu ismaaciil albasriy قال حدثنا ومهيب بن خالد البصري وانصومر الجرني قال وحيري حدثنا أيوب بن أبي السختياني أبو أيوب السختياني وشيوخ الإمام مالك رحمه الله تعالى وانصومر الجرني شيخ صاحب الكرامة لها عن عكرمة عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم وبارك عليه سئل ولا سؤالي رسول صلى الله عليه وسلم في حجته حجكي سيدحدي سأل ويديه فقال مركز وحيري السائل
ninkii saa'ilka ayuu nabiga wax weydiinayay sala allahu alay wasalam wuxuu yidhi dabaxtu waan gowracay qabla an armiya intaanan dhagax tuurkii caqaba samayn jamratulcaqaba intaanan tuuran ayaan hadyigii gowracay fa awma'a rasuulku waa ishaaray sala allahu alayh wasalam biyaddii gacantiisa uu ishaaro faqaala rasuulku sala allahu alayh wasalam wuxuu ishaaray laa xaraja uu ishaaray wax dembiya inuusan inuu gacanta ku ishaaray yacni wax dhibaato ah ma laha haddii aad hormarisay gowricii haddaad ramyiga hormarisana waa sidoo kale wax dhibaataa ma lahan wa qaala saa'il kalaa wuxuu yidhi haddana nin kaloo saa'ila wuxuu yidhi xalaqtu waan xiirtay qabla an adbaxa intaanan gowracan ayaan tintii xiirtay fa umaa haddana rasuulku sala allahu alay wasalam isagoon la hadlin uu ishaaro biyaddii gacantiisii wuxuu ku ishaaray walaa xaraja haddana wax dembiya wax mashaqaad dushaada ma ahaanin ayuu rasuulku u ishaaray sala allahu alayh wasalam marka muraadka bukhaarina waa intaasuu ka deliishanoo qofka caalimka inay u bannaan tahay madaxa ishaaradiisa iyo gacanta ishaaradeeda inuu ku jawaabo taasina aysan noqonaynin min baabi اlistikfaaf bilcilm cilmigii oo la fududeysto taasi ma noqonayso haddii xaajada iyo baahidu taasi keento qaala alimaamu الbukhaari raximah اllahu taعaalى xadaثana almakiyu bnu ibraahim makigu waxa weeye waa magac ee nisbe ma aha almakiyu sheekhii maka loo nisbeeyo loolama jeedo waa makiyu bnu sheekha magaciisii waa la yidhaha maki wax magaciisa maki la yidhahna kutubu sita sheekhanaaba uga jira wax magaciisa maki la yidhaaho sheekhan keligiisa uga jira kutubu sita oo dhan xadaثana almakiyu bnu ibraahim bnu bashar albalkhi ayaa la yidhaha ibraahim bnu bashar albalkhi waa muslim abu daawuud iyo tirmidi iyo nasaa'i iyaguna sheekhan way ka wariyaan laakiin biwaasiday uga wariyaan oo muslimkan ku soo mari jirnay laakiin waasiduu ahaa jiray oo waxaa sidaas oo kale la mid ah abu daawuudka tirmidi iyo nasaa'iga kulligood sheekhan waxbay ka wariyaan laakiin biwaasida ama imaamu الbukhaari raximah اllahu tacaala si toosa ayuu sheekha wax uga wariyaa makiyu bnu ibraahim qaala wuxuu yidhi makiyu bnu ibraahim akhbaranaa xandalatu waa xandalatu bnu sufyaan bni cabdiraxmaan almadani hore waxaan ku soo marnay sheekha baabu اlxayaa min aliimaan baabkaasaan ku soo qaadan xandalatu ibnu sufyaan ibni cabdiraxmaan almadani baabu alxayaau min aliimaan xishoodku iimaanku ka mid halkaasaan ku soo qaadanay can saalim waa saalim bni cabdillahi bni cumar bni alkhadaab qaala wuxuu yidhi saalim samictu abaa hurayra can الnabiy salى اllahu wasalam wbaaraka calayhi qaal wuxuu yidhi rasuulka ale salى اllahu alayh wasalam yuqbadu اlcilmu cilmiga waa la qibdoon doonaa adduunka waa laga kor yeeli bimowti اlculamaana lagu qibdoono culamada maaragtaa geeridu ku badan wayadharu اljahlu jahliguna waa faafi doonaa wاlfitanu fitantuna way faafi doontaa acaadana allahu minha ilahi naga badbaadiyo subxaanaه wa tacaala wayakhiru اlharju harjiguna wuu fara badan doonaa qiila waxaa la yidhi yaa rasuul allah rasuulka ilaahayow wama lharju harjigu muxuu yahay faqaala rasuulku salى اllahu alيه wasalam haakadaa saasuu biyadihi gacantiisa ku ishaaray marka waa in ishaaro lagu jawaabi karo deliil u yahay gacantii rasuulku salى اlه alay slam isagoo harjiga fasirayo gacantiisa ishaaro faxarafahaa gacantiiyuu leexiyey oo dhinacuu u leexiyey rasuulku salى اllahu alيه wasalam kaأnnahu waaba isagoo rasuulku salى اllahu alيه wasalam yuriidu doonaya alqatla dil asagoo doonayoo kale harji macnihiisu saan weeyo rasuulku sal qofka in la dilo weeyo harjiga saasuu ku fasiray rasuulku salى اllahu alيه wasalam wa qaala alkirmaani sheekha kirmaani la yidhah isagu wuxuu yidhi alharju huwa alfitna harjiga wuxuu yidhi isagu luqa ahaanba fitna la yidhah fairaadaة اlqatli min lafdihi calىa dariiqi tajawuz waa majaaz uu yidhi harjiga in qatli lagu fasiro id huwa laazim macna alharji oo macnaha harjigu maaragtaay laasimkiisii weeye laakiin asalkiisu waa fitno laakiin fitno maxaa ka laazimaya in la isdilo qaala wuxuu yidhi marka sheekhaasi ilaa an yahbuta wuruudu اlharji harjiga soo aroora inuu sugnaado maahane bimacna alqatli luga in isagoo bimacna alqatli loola jeedo waa inay soo aroorto uu yidhi oo nabiga ka soo aroorto salى اllahu alيه wasalam qultu waxaa yidhi xaafidku wahiya gaflaة cama fi اlbukhaariyi fi kitaabi اlfitan sheekhu wuxuu halmaamay wixii bukhaariga ku sugnaa kitaabu اlfitan wاlharju alqatlu harjigu waa dilka bilisaani اlxabasha harjiga sidaa uu ku yahay bukhaariga waa saa weri doona wasayaأtii baqiyaةu mabaaxiثi hada اlxadiiث hunaaka in shaaء allahu taعaalى qaala الimaamu الbukhaarي raximah اllahu taعaalى xadaثana muusى bnu ismaaciil الbصri qaala xadaثana whayb bnu khaalid qaala xadaثana hishaam bnu curwaة bnu zubayr a loola jeeda can faadimatu bintu mundir ibnu zubayr muslimkana iyagoo sidan isnaadka u xiriira can asmaana ku dar saddexda isagoo sidan u xiriira ayaan ku soo mari jirnay xadaثana hishaam can faadima can asmaa maxaa hishaamka iyo faadimo hishaamku waxaa weeye waa zawjkii faadimana waa zawjadiisii
زوجكي زوجديس أنت بدن وحي iska warin jireen muslimkana saasay ku ahaa jireen حدثنا هشام وهشام بن عروة ابن الزبير فاطمة وفاطمة بنت منذر ابن الزبير المادر isguursaday عن أسماء قالت waxay tiri أسماء بنت أبي بكر أتيت عائشة أنا وإمت والحال هي عائشة تصلي تكنيس فقلت markaasaan waxaa yidhi ما شأن الناس dadka arrinkoodu muxuu yahay dadka maxaa ku dhacay waata maanta la jahwareersan yahay fa ashaarat ila asamaa samaday ishaartay markaas caaisha iyadoo tukanaysa cirkay ishaartay fa idan waqtigaas annaasu dadkii qiyaaman waaba taataagan yihiinba marka fa ashaarat ila asamaa caaisha haddii salaadii ku jirta samada markay ishaaraysa ulajeedada ay ka leedahay waxaa weeye waa ishaara ilaa kutuufi shams waraxmadoobadaa jira weye wax dadku ay maaragtaahay u ducaysanayaan oo salaada ugu jiraan oo u tadarrucayaan waxa weeye qorax madoobaada jiray cirka fiiri waxa ka jira faydan waqtigaas annaasu dadkii qiyaamun waaba taagan yihiin oo salaadiiba dadkii u taagan yihiin faqaalat waxay tiri markaas umuna caaisha subxaana allah qultu markaasaan waxaa idhi aaya miya yacni kusuufu shamsi aaya miya likahrati dunuub ay calaama likahrati dunuub qoraxdan madoobaadkeedu ma calaamad iyo astaan ilaahay subxaanahu watacaala uu ula jeedo dadka dunuubtooda iyo macaasidu inay farabadatay miya fa ashaarat haddana caaisha iyadoo tukanaysa bira'siha madaxeeday waxay ku ishaartay ey nacam haah waa calaamo ilaahay dadka tusaalaynayo marka waxa uu imaamku uu ka deliishan in caalimku uu ku iftoon karo ishaaro inuu ku iftoon karo waxaa kaloo xadiiska laga qaadan xarakaadkaas hal mar iyo laba mar wax la ishaarayo qofku isagoo wax tukanaya inaysan salaadii wax u dhibaynin maxaa yeele salaada yacni caaisho salaadeedii iska sii wadatay iyadoo ishaaro bixinaysa faqumtu markaasaan istaagay tiri yacni fi salaaday ula jeedaahay asmaa anna salaadiian dhinacayga ka xirtay tiri xataa calaani alghashyu ilaa markaasi mirdaboolkuba uu iga kor noqdayba يعني mirdaboolku uga kor noqday ulajeedada waxaa weeye alxaalaة الqariibaةu min alghashyi ula jeedaa xaalad mirdabool ku dhow ilaa aan u dhowaaday ayaan sidaa ugu taagnaa salaaddii kusuufu shams fajacaltu waxaan gudagalay asubu calىa ra'si madaxayga inaan ku shubo almaa biyo aan ku shubo faxamid allaha ilaahay uu mahadiyey caza wajal annabiyu nabigu salى الlahu عalيه wasalam waatnaa caleyh ilaahay u ammaanay rasuulku salى الlahu عalيه wasalam uma qaala markaasuu rasuulka ale salى الlahu عalيه wasalam wuxuu yidhi maa min shayin shay ma jiro shaygaasoo lama kun aanan ahayn uriituhu mid lay tusay shaygaas aanan ahayn ilaa haddaan lay tusi jirin ra'aytuhu shaygii waan arkay fii maqaami maqaamkaygana aan taaganahay ayaan maanta ku arkay wax walba oon lay tusi jirin maantaa lay tusay xata aljannatu waannaaru jannadiiyo naartii xataa maantaa lay tusay fa uxiya ilaya aniga waxaa la ii waxyooday rasuulku salى الlahu عalيه wasalam annakum idinka tuftanuuna in laydin fidnaynayo oo laydin imtixaanayo fii qubuurikum qubuurtiina dhexdeeda laydinku imtixaanayo fidnatan laydinku imtixaanayo fidnadaasoo mihla fidnati اlmasiixi اdajaal masiixu dajaal fidnadiisa fidno la mida imtixaan la mida in qubuurta laydinku imtixaanayo ow amase qariiban wax u dhow min fitnati اlmasiixi اdajaal ama fidnada masiixu dajaal wax u dhow laa adrii ma ogiyey tiri aya daalika kaas midkii madkuurkaas midkii qaalat asmaa wixii ay tiri hadalkii shakiya iga jire labadaas mid un bay tiriye min fitnati اlmasiixi dajaal wax u dhow ama mihla fitnati اlmasiixi dajaal ama qariiban min fitnati masiixi dajaal yuqaalu waxaa la leeyahay qofka markii qabriga la seexiyo oo la imtixaanayo maa maxay buu yahay cilmuka ogaalkaaga bihaada kan aad ku cilmi leedahay kaasoo alrajuli ee ninka ah nabiga suuraddiisii salى الlahu عalيه wasalam ay qof walboo dhintaa qabriga loogu keeni markaasaa la leeyahay cilmigaaga ka waran maxaad ka taqaanaa fa ama almu'minu qofkii muuminkaa aw ilmuuqinu ama qofkii hore u yaqiiniyey nabiga salى الlahu عalيه wasalam laa adrii ma ogi biayihimaa labadaas midkii qaalad asmaa ay tiriye fayaquulu wuxuu leeyahay muuminku huwa muxamedun rasuulu الlahi salى الlahu عalيه wasalam jaaءanaa biاlbayinaati wاlhuda فأجبنا وان أجيبني واتبعنا وان راعني هو محمد ثلاثا صدح قولوا كعل علينو كم عن سنة رسولك مقي عيسى صلى الله عليه وسلم فيقال مركاسا وحال ليه نم اسكهرد قبرك كهرد صالحا حالاتهي بدون أكسن ماشان هرد على ليه قد علمنا وان أغاني إنه الشأن كنت إن أدهيد لموقنا به نبي مد يقينسا صلى الله عليه وسلم إن أدرميسنان جرتي أدراعي جرتي وان أغاني وأما المنافق الروح منافقة أو المرتاب أما الروح شكسنا لا أدري ما أوي تري فاطمة أي ذلك المذكور متكاسكي قال الأسماء تري
fayaquulu wuxuu leeyahay ruuxa munaafiqa ah ama kii shakisanaa laa adrii ma ogi samictu anugu annaasa dadkaan iska maqli jiray yaquuluuna xaal dadku shay-an waxun ay iska leeyihiin faqultu anna waa iska dhihdhihi jiray carabka un baa nebi maxamed rasuullah iska dhihi jiraye wax iimaana iyo wax raacida ma aanan jirinoo ma aqaano wuxuu yahay saasuu iska leeyahay marka sidaasaa isagana qabriga dhexdiisa loogu cadaabi nacuudu billahi min cadaabi alqabri ilahay naga badbaadiye subxaanahu wa tacaala marka waa ilaahay awooddiisa haddee intaas iyo ka badan ayaa ilaahay awooddiisa u waasac noqon kartaaho malaayiinta bini aadamka ah ee dhimanaya oo laga yaabo intaasoo malaayiina hal saac iyo hal ilbiriqsin ay isla dhintaan oo hal saac iyo hal ilbiriqsina qabri la wada geliyo kulligood mid walba nabigaa loo keenaa sala allahu alayh wasalam suuraddiisii markaasaa la leeyahay maa cilmuka bi hada rajul ninkan ka waran ayaa la leeyahay ilahay awooddiisana subxaanahu wa tacaala intaasay ka badan ayay samayn kartaa haddii bini aadamkii ayaaba wax shakli muuqaal noocaas oo kale ah sameeyo khudbadda jasiiradda meesha ugu sarraysa caalamka nin khadiibuhu uu ka jeedinayo ama war uu ka bixinayo ayaa laga yaabaa gurigaaga inaad ka fiirsato kii america joogana uu isla saacaddaa fiirsanayo u jeedo ninkiioo hadlaya kii eshiya jooga isaguna isla laxdadaa ninkiioo hadlaya uu fiirsanayo waana halkiina waxaad wada fiirsanaysiin hal ninaad wada fiirsanaysiin calaa shaklin waaxid calaa laxdatin waaxida aad hal nin wada fiirsanay isagoo saacaddaa hadlaaya oo khudbaynaya oo wada fiirsanaysiin waxaan ka mid sida hadda aaladdan hortaalo oo kale waa la mid hadda aalad haddan hortaalo oo casharka hadda aan ka dhegaysanayno laxdadan iyo ilbiriqsigaan hadda aan hadlayno intaasoo kumaan kuna fiirsanaysa oo dhegaysanaysa waana qofku waa iska qofkii halkii qof way qofka hadlay marka bini aadamkii yaaba wax u dhow sameeyee famaa baaluka biqudrati illaahi tacaala ilaahay awooddiisa maxaad u malaynaya subxaanahu wa tacaala marka waxba ha qariibsanoo ha dhihin nebi moxamed sala allahu alay wasalam waa keligiise malaayiin qof hadday hal mar isla wada dhintaan see loogu wada keenaa malaayiintaas nabiga sala allahu alayh wasalam qaala alimaamu albukhaari raximah allahu tacaala baabu taxriidi الnabiyi salى اllahu عalayh wasalam wafda cabdilqays calىa an yaxfaduu اliimaana wاlcilma wayukhbiruu man waraa'ah haadaa midkani baabu taxriidi الnabiyi nabiga boorintiisii u baab yahay salى اllahu عalayh wasalam wafda cabdilqays wafdigii her cabdulqays uu nabigu ku booriyey salى اllahu عalayh wasalam calىa an yaxfaduu اliimaana wاlcilma iimaanka iyo cilmiga inay xafidaan wayukhbiruu man duulna ay uga warramaan waxay xafideen duulkaasoo waraa'ahum iyaga gadaashooda ah wuxuu u baab yahay uu yidhi sheekhu raximah اllahu tacaala baabka uu ka hadli doonaa wafdigii cabdulqays inuu rasuulku salى اllahu عalayh wasalama uu ku booriyey inay iimaanka iyo cilmiga uu u sheegay ay xafidaan markay xafidaan iimaanka iyo cilmiga kabacdina dadkii ka dambeeyey ka soo tageen inay u sheegaan ay ku faafiyaan marka baabkan bukhaari wuxuu ula jeedaa raximah اllahu tacaala qofka daalibku markuu cilmigii xambaaro kabacdi in isagana looga baahan yahay cilmigii inuu faafiyo oo dadka ka dambeeya isaguna cilmigii uu ku faafiyo iyo qofka caalimku inuu ku booriyo dalabadiisa iyo ardaydiisa inay cilmiga faafiyaan maxaa yeeley cilmiga haddii aan la faafin lahayn innagaba nama soo gaareen marka xadiiska wafdi cabdilqays horena waan u soo marnay munaasabo kale aan ku soo marno baabu adaa'i alkhumusi min aliimaan baabkaasaan ku soo marnay oo khumuska la dhiibo inuu iimaanka ka mid yahay oo abwaabuliimaanu sheekhu markaa u deliishanayay dhinac kaluu rabaa haddana sheekhu inuu ka deliishado raximah اllahu tacala imaam bukhaari raximah اllahu tacaala axaadiista uu soo celcelinayo wuxuu muslim uga bedelan yahay mid walbaba ulajeedo gaarahu ka leeyahay ilaa xadiiskii isagoo hal xadiisa ayaa waxaa laga yaabaa masaa'il fara badan intaasoo boqolaal iyo intaasoo kumaan kun oo masaa'ila in laga dhex qaadan karo xadiiskiina waa halkii xadiis oo keligiis walidaalika imam bukhaari raximah اllahu tacaala xadiiskan wuxuu ku soo celceliyey 9 meelood oo kitaabkii saxiixa ka mid a 9 mawaadic uu ku soo celceliyey wafdi cabdilqays xadiis ka sheegaynaya isagoo sheekhuna raximah اllahu tacaala mid walbaba ulajeedo gaara iyo istinbaad gaara kale wa qaala maaliku bnu اlxuwayriثi waa taskhiiru اlxaariث xaariث oo la taskhiiriyey wa qaala maaliku bnu اlxuwayriثi maaliku bnu اlxuwayriث wuxuu yidhi qaala lana الnabiyu nabigu wuxuu nagu yidhi salى اllahu عalيه wasalam irjicuu ilىa ahliikum ahliyaalkiinni ordoo dib ugu laabta facallimuuhum alcilma oo cilmigan aad iga barateen gaarsiiya ahalkiinni oo saasuu rasuulku salى اllahu عalيه wasalam wuxuu dadka ugu booriyi jiray markuu cilmiga uu baro inay cilmiga iyaguna ay sii faafiyaan oo aysan la fadhiisanin xadiiskan bukhaari raximah اllahu tacaala siiqatu tacliiq uu ku soo arooriyey oo mucallaq ahaan uu ku soo arooriyey waa qeyb xadiis dheer ka mida nooguna imaan doona kitaabu salaad wuxuu kaluu noogu iman doonaa kitaabuladab wuxuu kaluu noogu imaan doonaa baabu khabari اlwaaxid intaasoo abwaaba xadiis uu ku soo celcelin doono waayo waana xadiis dheer oo qidcadii muraadkiisu ay ahayd ulajeedadii bukhaari uu ka lahaayo cilmiga in la faafiyo ah intaasuu ka soo goostay imaam albukhaari raximah اllahu tacaala
قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا محمد بن بشار ورجاش إن بدن كسر الله لابطي كتاب صحيح مسلم محمد بن بشار بن عثمان البصري جيو مسلم كسر قادن جرني قال حدثنا غندر محمد بن جعفر المعروف بغندر قال حدثنا شعبة بن الحجاج أمير المؤمنين في الحديث عن أبي جمرة نصر بن عمران البصري سمري جرني قال وحويري أبي جمرة كنت وحنها أترجم بين ابن عباس وبين الناس عبد الله بن عباس يضدك دحدودان أكل ترجماني جري وترجمان أنا هايو عبد الله بن عباس اللغة يعني اللغة فارسكا ضدك مسائل ككوي دينية أيان اللغة العربية وجود بيجري عبد الله بن عباس فقال مركز وحويري عبد الله بن عباس إن وفد عبد القيس وفدي عبد القيس أتوا النبي ويمادين صلى الله عليه وسلم فقال رسولك صلى الله عليه وسلم وحويري من الوفد أو من القوم قالوا حيران ربيعا ليلة وقال رسولك صلى الله عليه وسلم مرحبا بالقوم سادفتم وافقدان مرحبا مكان وهو غير كل حال وفدي وأيهين محايل لما هو جنوا بالقتل وصبي النساء والذراري إلا الدلو وهوانك عرورتي لغا قفاشو لغم هو جنوا أيقو سيف لغم صو إسلامين أيقو ضائعين أي النبي الرميين صلى الله عليه وسلم وفد عبد القيس هير عبد القيس أيقو ضائعين النبي الرميين صلى الله عليه وسلم ولا ندامة آخرنا كوش الله وغير ندامة حاليا كوش الله غيركم قالوا وركاسي وحيراهم وفدي إننا نأتيك ونكون مادنا من شقة مكان مسافة كاغن مادنا مسافة بعيدة فوق وبيننا دحدنا وبينك دحدنا هذا كان هذا كاسو الحي قبيل كاسو من كفار مضارع قال هذا مضر كمذا ولا نستطيع ما أودنا أن نأتيك إن نكون مادنا إلا في شهر حرام بالله حرمية أو بها يعني قالوا أي احترامان حتى هو دجالك اللي جوجين جري بها حشمة لنا نكون مادنا ما هنا بلا كلكم فمرنا أمر نفر أمر كاسو نخبر بها أمر كان وجور بحنه من روح ورانا قدال شنا هذا أمر كاسو ندخله أمر كاس سببتيسة الجنة جنة أن كوجلينه فأمره رسولك صلى الله عليه وسلم بأربع أفر أي أمري ونهاهم رسولك صلى الله عليه وسلم وحكر يبي عن 4 أفر الرماد أمرهم أمري بالإيمان بالله عز وجل وحده قال وحي رسولك صلى الله عليه وسلم هل تدرون ما أكتين ما الإيمان بالله وحده إلهي كل جسل الرماية وحويهي قالوا وحيران الله ورسوله أعلم قال وحي رسولك صلى الله عليه وسلم شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وتعض الخمس من المغنم ونهاهم رسولك صلى الله عليه وسلم وحكر يبي عن الدباء بعركي يكره برسول صلى الله عليه وسلم إن بيه لغو كيدستو والحنتمي آشونكين رسولك صلى الله عليه وسلم وكره والمزفة والكي اللامية واللامي اللامريانة إن وحلقو شبتو عبيتانك لغو شبتو رسولك وكنه صلى الله عليه وسلم قال شعبة وحيري وربما وحال أركا قال أبو جمرة إلا شعبة عن أبي جمرة إنه هذا أبو جمرة كقادي جري قال أبو جمرة إنه يريد دعي كرته النقيري أي رسولك كرهب صلى الله عليه وسلم سلتمراتك إن وحلقو كيد السدو وعبيتانك لغو شبتو أي رسولك النبي صلى الله عليه وسلم وربما وحال أركا قال أبو جمرة إنه يري المقير متكي للامي إنه يرينا ودعي كرتاه وشك من الراوي قال وحي رسولك صلى الله عليه وسلم احفظوه المذكور وركاس عن دين شيغو علمك هرتا حفظ أدينكو وأخبروه وغنا وربحيه وغا خبره من دول كاسو وراءكم أدينك قداشينا حديث كوان صمرني باب الرحلة في المسألة النازلة هذا مثل باب الرحلة الرشد أبابيهي في مسألة دين الله رحته مسألة النازلة أي الحادثة يسود الرسيو مسألة دعداء وعصوبة هراء يجري جيرين ومعلومة حادثة وقذال كتمدة إن الله رحته اهتماما بشأنها أيضا الشأن كذا لغا مرقايو علمك عصوب أو سود دقاي أو هرقفك أوسن أقوانين هران أوسن مغلي جيرين إن الله رحته رحلة داسي فضلك أي لهي أي إمام البخاري رحمه الله تعالى وباب كان وكسو أرورين دونايا ضدكي هره إن مسائل كالنوازل كأه أي أخران جيرين ومسافة دير أي أوغا إيمان جيرين قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا محمد بن مقاتل أبو الحسن المروزي محمد بن مقاتل الحسن المروزي قال وحي محمد بن مقاتل أخبرنا عبد الله هدي عبد الله قاية محل لجيدا مر هدي محمد بن مقاتل ماشي وجوغو عبد الله ابن المبارك والدليل على ذلك على المنظومة التي درستها المنظومة دينا هدي بيت كيدو محوها وابن المقاتل أتى في المروزي ابن المبارك عنيت احترزي
أبو الحسن قال أخبرنا عبد الله المبارك ولجد أمر هدي محمد المقاتل صوشي قال وحول عبد الله المبارك الجامع لخصال الخير أخبرنا عمر بن سعيد ابن أبي حسين المكي من رجال الجماعة كمديهي قال وحول حدثني عبد الله بن أبي مليكة وتابعي وينام سمرج عبد الله ابن عبيد الله عبد الله بن عبيد الله ابن أبي مليكة ومن باب النسبة إلى الجد عن عقبة بن الحارث أسلم يوم الفتح وممن أسلم يوم الفتح أنت مكلف فرنا يدتك سواء إسلامي كجري صحابيا عقبة بن الحارث أنه صحابي تزوج وحو قرسدي ابنة قبر داسو لأبي إيهاب بن عزيز صحابي قال لي أبي إيهاب بن عزيز وسقناتي قبر داسو قرسدي فأتته وحا أتمت صحابي مركو قبر دا قرسدي امرأة هوينة أتمت فقالت مركاسي هوينتي وحي تري إني أنوغ قد حقيقة أرضعت عقبة أنا نوجيي والتي قبر دينا أنيقا نوجيي تزوج وقرسدي عقبة إيو قبر دا وقبو حاسك كدقنا يبا labadoodaba anaa nuujiyeyo waa dad walaalaha isguursado nikaaxooda waa baadil saasay tiri faqaala lahaa cuqbatu islaantii yacni radaaca sheeganaysay cuqba wuxuu ku yidhi ma aclamu anigu ma ogi annaki adigu ardactinii inaad inuujisay wala akhbartinii mana aadan horan iguma sheegin markaad arooskaygan iyo maqashaad uun yani soo istaagtay mooyo hadalkaa keentaye horena kaagama maqli jirin arrintan haddaad keentay farakiba ilaa rasuuli illah rasuulka ilaahi sala allahu calayhi wasalam xaggiisuu u koray bilmadiinati fi lmadiina magaalada madiina dhexdeeda rasuulku ugu koray sala allahu alayh wasalam rasuulku aaday yaa loola jeedaa fasa'alahu rasuulku sala allahu alayh wasalam su-aalay masaladan xaadisada ee dhacdadan cusub oo hore uusan u maqli jirin xukunkeedii ayuu u doontay rasuulka sala allahu wasalam mubaaraka caleyh faqaala rasuulullahi rasuulka ale sala allahu calayhi wasalam markaa wuxuu yidhi kayfa waqad qiila kayfa tudaajicuhaa see ula jiifsanayo xaas aad uga dhiganay waqad xaal qiila la yidhi annaka akhuuhaa ayaa loola jeedaa waaba walaalkeedaadba tahay haddiiba lagu yidhi oo walaalaad tihiinba gabadhiiba la yidhi oo hadalkaasiba uu soo yeedhay see ula seexanay oo u naagaysanay fafaaraqahaa gabadhii waxaa iska faaruqay cuqbatu cuqba wuu faaruqay wa nakaxat zawjan hayrahu ninayna guursatay ninkaasoo hayrahu cuqba hayrkiisa iska guursatay marka xadiiskan hadda wuxuu tusinaa imaam الbukhaari raximah اllahu taعala ulajeedada uu ka leeyahay waxaa weeye waa rixla fi اlmasalaةi الnaasila masaa'ilka nawaasilka ah ee xawaadista ah ee cusub oo qofku cilmigeeda uusan hore u maqlin horena uusan u baran inuu u rixloodo oo meel ka fog iyo magaalo ka fog iyo waddan ka fog inuu xukunkeeda u aado si uu markaa masalada xukunkeeda u soo ogaado xadiiskan marka madaahibtu waa isku khilaafeen haddii haweeney murdica ah ay adigoo gabar guursaday kuu timaaday ku tiraaho gabadhana anigaa nuujiyey adigana anaa ku nuujiyo walaalaatii nikaaxina waa baadil ma la cuskanaa hadalkeeda oo keligeed shahaado yacni ma laga dhigi karaa markhaati oo ma loo cuskan karaa mise waxaa shardi ah shuhado kale in la helo xadiiska lafdigiisa iyo daahirkiisa waxaa qaatay xanaabilada imaam axmed raximah اllahu tacaala wuxuu leeyahay haweeney murdico ah cadaaladdeedana la og yahay hadday kuu timaaday ku tiraa adiga iyo xaaskaagaba anaa idin nuujiye walaalaad tihiin biduuni shaki nikaaxaasi waa baatil wax ka ansaxayan ma jiraan waa tamasukan bidaahiri hada alxadiis imaam axmedna raximah اllahu taعala xadiiska daahirkiisa ayuu iska qabsaday laakiin a'immada kale sida imaamu shaafici raximah اllahu taعaalى wuxuu leeyahay qowlu اlmurdicati waxdaha laysa bixuja murdicada keligeed hadalkeeda xujo ma noqon karo bal laa budda min الshuhadaa markhaatiyaal fara badan waa laga maarmaan laba nin waa inay caddeeyaan ama hal nin iyo laba naag waa inay caddeeyaan ama afar haweenuhu waa inay caddeeyaan iyadu marka daakhilka in laga saaro shardi ma aho shuhadada waa ka mid noqon kartaa uu leeyahy imaamu shaafici raximah اllahu taعala murdicada laakiin qowlu lmurdica waxdaha laysa bixuja keligeed hadalkeeda xujo lagama dhigan karo imaamu shaafici raximah اllahu taعala daahirka xadiiskana wuxuu uga jawaabay rasuulka salى اllahu alيه wasalam jawaabka uu cuqbo ugu jawaabay gabadhan see ula jiifane uu yidhi rasuulku salى اllahu alيه wasalam saxaabiguna uu iska faaruqay waxaa weeye waa min baabi اlwaraci wاlاxtiyaad walaa yakfa lwaracu diiw xalaal miradku ma qarsoono marba haddiiba shaki meeshii uu yimid sida waracaya alla ka cabsiga wanaagsan wixiiba maaragtaa shakiba uu yimaado inaad isaga tagto saasuu uga jawaabay imam shaafici raximah اllahu taعala baabu tanaawubi fi اlcilmi hadaa midkani baabu tanaawubi kaltamiduu u baabya fi lcilmi cilmiga dhexdiisa loo kaltamo imaam bukhaari raximah اllahu taعala weli abwaabtii cilmigu ku dhex jiraa baabkan wuxuu uga hadli doonaa haddii xataa qofka duruufo ay haystaan oo maalin walba inuu xalqadii cilmiga yimaado duruufuhu ay u saamixi waayaan
in xataa tanaawub uu sameeyo tanaawub inuusan tawaamul ujeeddada maxay tahay qofkan aad isku xirfada tihiin ama isku meesha aad ka shaqaysaan inaad maalin dirto si casharka uu u soo dhegaysto maalinta kalena adiga uu ku diro maalinta uu isagu maqan yahay adaa xirfadii ka sii shaqaynayo maalinta adigu aad maqan tahana isagaa xirfadii ka sii shaqaynayo maalin walba ninkuu cilmiga uu keenana ninkii kale isagaa ugu celinayo waa sidii sha'niga saxaabadu ay samayn jireen saxaabada sha'nigoodu saas uu ahaan jiray walidaalika iyagoo saxaabadu ganacsataa iyagoo shaqaysanaya ayay haddana waxay soo xaadiri jireen xalaqaadka cilmiga ee nebigu uu bixin jiray sala allahu alayh wasalam ayay imaan jireen iyagoo xataa min baabi tanaawub mararka qaar samayn jiro hadday firaaqo waayaan war hebelow cilmiga nabiga noo soo dhegayso sala allahu calayh wasalam ee markaa kabacdina igu celi maalinta kalena ana aan soo dhegaysto kuugu celiyo saasay samayn jireen qaala alimaamu albukhaari raximahu llahu tacaala xadahanaa abulyamaan qaala akhbaranaa shucayb can zuhri saddexdan in badan aan soo marnay saddexdan sheekh iyagoo sidan isugu xigo abulyamaankuna hadda wuxuu noo ahaan jiray xakam ibnu naafic ayaa loola jeedaa shucaybkuna waa shucayb ibnu abi xamsa iyadoo manduumadu sidaa noo tilmaamaysana waama soo qaadanay wama daliilu calaa dalika min almanduumati alatii darastahaa shucaybun canhu jaaءa abulyamaani ibnu abi xamsata lilcayaani mar hadday saa isugu xisadaan shucaybka yani iyo abulyamaan abulyamaanka in loola jeedo xakam ibnu naafic shucaybkana loola jeedo shucayb ibnu abi xamsa shucayb marka ibnu abi xamsa waa bilmuhmala oo xa la akhriyo laakiin waxaa dhacay sharaxa bukhaariga cumdatulqaariga la yidhaaho daaru ixyaa'i turaah daaru ixyaa'i turaah dabcadaas waxaa ku dhacay in loola jeedo shucaybka shucayb ibnu abi jamra biljiim shucayb ibnu abi jamra laakiin sida sawaabka waxaa waa xamsa sida manduumada aan kusoo mari jirno kutubta kale oo shuraaxdana ayba dhigayaan waxaa loola jeedaa shucayb ibnu abi xamsati bilxaa xadaasaa loola jeeda qaala akhbaranaa shucaybun can zuhri xa qaala abuu cabdillaahi waa bukhaarigu ula jeeda isaga naftiisa ula jeedaahe qaala abuu cabdillaahi wuxuu yidhi waa bukhaariye wa qaala bnu wahbin cabdullaahi bnu wahbin ilmisri waa sheekhii kusoo laalaba jiray saxiixu muslimkee cabdullaahi bnu wahbin ilmisri wuxuu yidhi haddee bukhaari sooma gaarin sheekhan cabdullahi bn wahbin ilmisri sooma gaarin maca dalika wuxuu lehy qala abu cabdillah wa qaala bnu wahbin marka isnaadku waxa weeye waa mucallaq isnaadku waa mucallaqoo meelo kale lagu wasliyey isnaadkiisa isagoo mutasila waxaa wasliyey ibnu xibbaan fii saxiixi ibnu xibbaan ayaa saxiixiisa ku wasliyey isnaadka laakiin mar haddii siiqatuljasmi uu ku soo arooriyey isnaadku waa iska saxiix wa qaala bnu wahbin cabdullahi bn wahbin ilmisri wuxuu yidhi akhbaranaa yunus bnu yaziid ilayligu can ibni shihaabi zuhri can cubaydillaahi bni cabdillaahi bni abi thawr cubaydillaahi bni cabdillaahi bni abi thawr laysa liabi thawr can ibni cabaas ila hada alxadiis can cabdillahi bni cabaas cabdullahi bni cabaas fii saxiixi albukhaari halkan xadiis bisuu wax uga wariyey abu thawrkan cubaydillahi bni cabdillahi bni abi thawr cabdullahi bni cabaas fii ahnaa'i saxiixi albukhaari halkan xadiis bis ayuu ka qaatay cabdullaahi bni cabaas can cubaydillahi bni cabdillaahi bni abi thawr can cabdillahi bni cabaas can cumara qaala wuxuu yihi sayidina cumar kuntu ana wajaarun lii aniga iyo deris waxaan ahay deriskaasoo lii aniga ii sugnaaday deriskaasoo min alansaari ansaarta ka mida fii bani umaya saakiniina ayaan ahayn kuwa deganaa fii bani umayaan dhex deganayn reer bani umaya umayata bni zaydin qabiilkaasaan dhex deganayn wa hiya qabiiladaasuna min cawaali lmadiina min saakinii cawaali lmadiina madiina duleedkeeda qabaa'ilka dega ayay qabaa'ilkaasina ay ka mid ahaayeen wa kunnaa waxaan ahay natanaawabu inaan kaltanno annusuula degidda calaa rasuulillahi lagu soo dego sala allahu alayh wasalam xalqada rasuulka lagu soo dego cilmi laga qaato waa u kaltami jirnay ninba kalkiisuu doono jiray cilmiga yanzilu yowman maalinuu degi jiray isagu saaxiibkay wa anzilu yowman anna maalinaan soo degi jiray fa idaa waqtigii nasaltu aan soo dego ji'tuhu waxaan saaxiibkay ula iman jiray bikhabari daalik kaas khabarkiisaan ula iman jiray kaasoo alyowmi yoomka ah oo min alwaxyi wagayri waxyi iyo kayrkiisa waidaa nasala saaxiibkay hadduu soo degana facala midla dalika alficli ficilkaas anigu aan sameeyoo kale ayuu asna samay jiray fanasala saaxibii alansaariyu saaxiibkayga ansaariga ahaa yowma nowbatihi kalkiisa maalinteediiuu soo degay fadaraba baabi albaabkayguu ii soo garaacay darban shadiida garaacid daranoo albaabka xog igu soo garaacay faqaala markaasu wuxuu yidhi saaxiibkayga ansaariga ahama halkaas huwa isagii maya cumar bnu khadaab uu ula jeedaa ma joogaa cumar bnu khadaab meesha fasictu waa argagaxay fakharajtu ilayhi waa u soo baxay maxaa ku dhacay yidhi saxaabiga ansaariga u soo baxay faqaala markaasuu wuxuu yidhi saaxiibkii qad xaqiiqe xadaa amrun cadiimun arrin weyn ayaa soo dariyey
qaala cumar bnu اlkhadaab wuxuu yidhi marka amarka cadiimkaana wuxuu ula jeedaa waa sida asagu uu u fahmaye waa dalaaqu rasuuli llaahi salى اllahu alيه wasalam lisawjaatih rasuulka salى اllahu alيه wasalam zawjaadkiisii waa furay arrinka saasuu ula jeedaa waa isagaasi sida u maleeyey qaala wuxuu yidhi cumar bnu اlkhadaab dakhaltu waxaan u soo galay calىa xafsa xafsa oo gabadhaydii ah ayaan u soo galay min zawjaati rasuulillaahina ka mid ahayd salى اllahu alيه wasalam faidan hiya xafsa tabkii waaba ooyeeba faqultu markaasaan waxaan idhi dallaqakunna ma idin furay rasuulullah rasuulka ilaahi salى اllahu alيه wasalam ma idin soo furay qaalat markaasi waxay tidhi laa adri ma ogi anigu rasuulku inuuna furay in kale ثuma dakhaltu calى الnabiyaan u soo galay salى اllahu alيه wasalam faqultu waxaan idhi walxaal anaa qaa'imun anoon fadhiisan maadaama arrinka aan ka baqayo naxdinna uu igu hayo anigoon fadhiisanaan waxaan idhi adallaqta nisaa'ak rasuulka ilaahi salى اllahu alيه wasalam haweenkaagii miyaad furtay qaala rasuulka ale salى اllahu alيه wasalam wuxuu yidhi laa ma aanan furin uu yidhi rasuulku salى اllahu alيه wasalam faqultu markaasaan waxaan idhi allahu akbar farxad aan farxay allahu akbar waa tacajuban min danni اlansaariyi alictizaala طalaaqan ictizaalkii nabigu haweenka uu xoogaa ka fogaaday oo bil iyo wax lamida uu ka fogaaday rasuulku salى اllahu alيه wasalam ayaa ansaarigii wuxuu u maleeyey dalaaquu u maleeyey ictizaalkii nabigu salى اllahu alيه wasalam marka arrinkii iga nixiyey maadaama arrinkii sidiiba uusan noqonin oo ilaahayba subxaanahu wa tacaalaba sidii naxdintiiba ilaahay uusan xaqiijin ayaan farxay oon idhi allahu akbar aan idhi marka bukhaari ujeeddada xadiiskan hadda uu ka leeyahay waxaa weeye baabu tanaawub fi lcilmi inay wanaagsan tahay sunnana tahay cilmiga in loo kaltamo oo haddii xataa wakhti aad weyso cilmiga aad ku barato in xataa tanaawubkaas lagu barto cilmigoo xafiiskaaga iyo dukaankaaga labada qof oo ka shaqaynayo qofo maalin uu xalqada cilmiga uu soo xaadiro sidaasaa cilmiga lagu baran jiray qaala الإمام البخاري رحimه الله taعالى baaب الغضب في الموعدة والتacليم إذا ra'ى ma yakrahu hadaa midkani baabulغadabi carada ayuu u baabya fi lmawcidati wacdiga dhexdiisa lagu caroodo watacliim waxbaridda dhexdeedana lagu caroodo idaa ra'aa hadduu arkana uu caroodo caalimku maa shay uu arko shaygaasoo yakrahu uu kahanayo abwaabtii cilmiga ayuu sheekhu weli ku dhex jiraahe bukhaari raximah اllahu tacaala baabka wuxuu uga hadli doonaa caalimku inuu caroodo xilliga uu dadka wacdinayo iyo xilliga dadka uu waxbarayo hadduu arko wax shareecada wax u dhibayo ama uu qofka daalibkaa ku arko su'ul adab daalibku isagoo su'ul adab samaynaya ama waxyaalihii shareecadii nusqaaminaya daalibku isagoo samaynaya hadduu arko inuu u caroodo una canaanto caradaasuna ay tahay caro ilaahay dartiisa uu caroonayo iyo xuduuddii ilaahay subxaanahu watacaala oo la jebiyey iyo su'ul adabka qofka daalibku uu samaynayo qaala الإمام البخاري رحimه الله taعالى xadaثna محamed بن kaثيir الbصrي waa bukhaariga raximah الlahu taعaalى si toosu moxamed ibnu kaثيir albصri ayuu wax uga wariyaa cabdina waa la yidhah marka la nisbaynayo moxamed ibnu kaثيir alcabdiyna waa ku magacdheeri moxamed ibnu kaثيir alcabdi albصri imaamu muslim raximah الlahu taعaalى waan ku soo mari jirnay oo rijaashiisu ka mid ahaa laakiin biwaasida waasiduu muslimku wax uga qaadan jiray waxaa sidaas oo kale waasida wax uga qaatay tirmidi iyo nasaa'i moxamed ibnu kaثيir alcabdi albصriy iyaguna waxay uga qaataan waasida qaala wuxuu yidhi moxamed ibnu kaثيir akhbaranaa sufyaan haddee sufyaan maxaa loola jeedaa sufyaan athawri maxaa u deliila oon sidaa ku ogaanay waxaa ka qaadaya yani maya waxaa ka qaadaya moxamed ibnu kaثيir moxamed ibnu kaثيir marba hadduu sufyaan wax ka qaato waa sufyaan الthawri waana soo marnay wama daliilu calى dalika min almanظumati alati darastaha haddaa xasuusatid beydkii nacam qabiisaةu khalaadu ثuma alcabdi fathawriyu in canhu rawa bnu mahdi qabiisaةu khalaadu ثuma alcabdigan way hadda aan marayno ثuma alcabdiyu alcabdiyudii madumada aan ku soo marnay waa moxamed ibnu kaثيir albصri alcabdi wey hadduu ka qaado sufyaan waxaa loola jeedaa sufyaan الthawri xadaثna moxamed ibnu kaثيir qaala akhbaranaa sufyaan الthawri can abi khaalidin ismaaciil ibn abi khaalidkii soo maraynay can ibni abi khaalid ismaaciil ibni abi khaalid can qays ibni abi xaazim qays ibni abi xaazim qays wuxuu ahaa masale isagu uu la infiraaday ama manqabo ammaan uu la gooni noqday ammaantaas maxay ahayd casharaة اlmubashariin uu dhammaantood wax ka bartay keligiisaana manqabadaas ammaantaas la infiraaday qays ibni abi xaazim qays ibni abi xaazim marka khaalidka ibni abi khaalidkan ibni abi khaalid mar haddii bukhaariga lagu idlaaqo raawiga ka dambeeyaana uu yahay qofku wax ka qaadanayo qays ibni abi xaazimna uu yahay
ابن أبي خالد كان منظومة كسو مرني إن لو لجيدو إسماعيل ابن أبي خالد الكوفي ولبا كوفي إنه يعني منظومة كسو برني وما الدليل على ذلك من المنظومة أنت اللي كلام مغنى الله بلودي زيادة كلام مغنى إلا حفظيها اللي ربي منظومة وحي رأيه دوري لواتن بيدي إلا حفظيها فينا الكتاب كلام بيدو كسو عدا عن قيس إسماعيل ذاك ابن أبي خالد الكوفي فز بالعربي خالد الكوفي فز بالعربي عن قيس بن أبي حازم عن أبي مسعود الأنصاري قال رجل إننا وحي يا رسول الله رسولك إلهي لا أكاد مصيغيو أدرك صلاة إن هليلو مما يضول بنا فلان لأجل تضويل فلان بلا وماذا سمستري إعرابنا مما يضول بنا فلان لأجل تضويل فلان بنا hebel dheerayntiisa darteedoo bina annaga uu salaada nagu dheeraynayo salaadii dhammeed baynaan ka caajisoon iska dhaafay aan qarka u saaranahay maadaama ninkani salaaddii uu nagu dheeraynayo famaa ra'aytu nabiya nabiga ma aanan arkin sala allahu wasalam wabaaraka caleyh fii mawcidatin wacdi dhexdiisa kuma aanan arkin ashadda xaaluu yahay mid darnaasho badan rasuulku sala allahu aleyh wasalam gadaban min qadabin xagga carada uu ka darnaasho badan yahay min yowmaydin maalinta uu ka darnaasho badan yahay faqaala wuxuu rasuulku sala allahu aleyh wasalam maadaama dadkii jamaacadiiba laga tanfiirinayo وجماعتي دتك لا نعسيناي أيها الناس دتكنو إنكم أدينكم منفرون كوا دتك كلا إرياتين مساجد إلهي دتك أدينك كلا إريا فمن صلى بالناس وحي دتك تجي صلاة فليخفف حفظ ذايو فإن فيهم المريض والضعيف وذا الحاجة دتك جماعة وحا كل حجر قف حنون سنة قف ضعيفة قف حاجة يضل الصاحبة أي كل حجر جماعة مركز صلاة هلا فوضايو أصل كنا واسدا سوقفكو صلاة markuu dadka uu ka bixinayo inuu salaada fuudeeyo sunnadu waa sidaas hadduu qofku keligii isagu iska tukanayo falyudawil maa shaa wuxuu doono isagu ha dheereeyo marka hadalkan xadiiskan imaam albukhaari raximahullahu tacala isagu ulajeedada uu ka leeyahay waxaa weeye baabulghadabi fi lmawcidati waatacliim idaa ra'aa maa yakrah maalintaa rasuulku aad uu xanaaqay sala allahu aleyh wasalam fii mawcidatin ashadda gadaban min yowmaidin halkaasu intaasuu ula jeedaa imaam البخاري رحمه الله تعالى maxaa yeelay rasuulku sala allahu alay wasalam hadda ka hor uu ka digay arrinkan uu yihi dadka salaada ayaan lagu dheeraynin arrinkiioo soo laabtay uu arkay rasuulku sala allahu alay wasalam markaasuu cadhooday rasuulku sala allahu alيh wasalam qaala الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا عبد الله بن محمد أبو جعفر المسندي قال wuxuu yidhi عبد الله بن محمد حدثنا أبو عامر عبد الملك بن عمرو العقدي من رجال صحيح مسلم ka mid ahaa قال wuxuu yidhi حدثنا سليمان بن بلال المديني سليمان بن بلال المدني أن سمري جرني أصدقوا المدني هذا بخاري وحو قرأي المديني نسختنا واسكوا فقر منها مديني يا مدني نوالي سليمان بن بلال المديني وليبا نسخة أسيلي نسخة أسيلي وحي قري المدني رواية الأسيلي وحي قري المدني ساسي قري مركا المدني نوالي مديني نوالي ونسبة إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا سليمان بن بلال المديني عن ربيعة ابن أبي عبد الرحمن وربيعة الرأي هذا 10 كان كسو قادنا إن الشيخ مالك عن يزيد مولى المنبعث المدني من رجال الجماعة عن زيد بن خالد الجهني أن النبي صلى الله عليه وسلم سأله رجل ننا ويديي رسولك صلى الله عليه وسلم عن اللقادة بعضذي يكويدي رسولك صلى الله عليه وسلم فقال رسولك صلى الله عليه وسلم وحيري اعرف أقونسو كاها حرقيدا أقونسو حرقا يكون حلان تورتا وأنا تغان أو قال رسولك صلى الله عليه وسلم وعاها ويلكيدا بعضيدا ويلكيدا سنة هل سنة هيباري ثم مركا كبعدي استمتع بها كرها حيث اسكملكي هل سنة كبعدي تملكتها دي مركا شروط دي صامرت هل سنة هذا هيباريسو كبعدي وحشاقنا يا أدويسو اسكملكي يا لولجدا استمتع بها بمعنى املكها اسكملكي فإن جاء ربها أي صاحبها مالكها لولجدا مالك جدي هدوي ماذا أدو ملكي كبعدي فأديها إليه أجده اسكسي مركا تملكت تريو اسكملكي كبعدي هدو مالك يماذا اسكسي قال مركا سوحو يرننكي فضالة الإبل قيل بادي سينا ما شأنها حال كذا محويا رسولك إلهي صلى الله عليه وسلم بادي وأنه شكته قيل هدان هلانا كورنا ومال عدلا أن كهله فغضب وعرودي رسولك صلى الله عليه وسلم حتى احمرت وجنتاه لبدي سيد فور رسولك صلى الله عليه وسلم إلى كجذوتين أي عرودي رسولك صلى الله عليه وسلم أو قال أما وحو يراوي احمر وجهه رسولك وجهه صلى الله وسلم وبارك عليه
ayaa carooday waa zayd bnu khaalid aljuhani raawiga noo socday faqaala markaasuu rasuulku sala allahu calayhi wasalam wamaa maxay baa laka adiga kuu sugnaaday iyo walahaa lilibil adiga iyo geel maxaa sha'nigiinu yahayo maxaad ka rabtaa macahaa maca alibil geela micigiisa waxaa ahaaday siqaa'uhaa sibraarkeedii caloosheeda intaasoo waxay ku qaadan kartaa biyo ah markaasay intaasoo maalmood ay iska qadi kartaa biyahay u qadi kartaa waxidaa'uhaa cagafteediina micigeeda ahaadeedoo waxay wadataa yacni lug weynna way wadataahoo qodxaha iyo waxyaalaha aysan waxba ka dhibaynin taridulmaa'a biyahay iska aroori kartaa wa tarca shajara geedahay iska daaqi kartaa fadarhaa isaga tag ibishaa geelaas baadidaa isaga tag xataa yalqaaha rabbuhaa qofkii iska lahaa maalikuhaa qofkii iska lahaa ilaa uu kala kulmayo iska tag yacni baadida la qaadayo oo liajli tamallug hal sana la haybaarinaayo hal sana kabacdina la milkinaayo wuxuu ula jeedaa rasuulku sala allahu calayh wasalam maa laa yataqawaa min alxayawaan xayawaankii asagu aan isdifaaci karin sidii maaragta arigii iyo waxyaalaha maaragta idihii iyo waxyaalaha yaryarka ah ula jeedaa rasuulku sala allahu wasalam wabaarak caleyh amaa geelii iyo fardihii iyo xayawaanka orodka isku difaaci kara ama awooddiisa ama micigiisa isku difaaci kara haddii meel cidla ah laga helo waad ka tegi maxaa yeelay waxaad uga tegi isagu xayawaankii meel dheerna wuu u socon karaa oo socod dheer uu leeyahay intaasoo muddo ahu biyaha isagu ka maarmi karaa ma qaadaysid liajli tamalluk waxa la nahyinayana waxa weeye geelaa meesha cidlada ah saxarada maraya inaad liajli tamallug aad u qaaddo ayaa la diiday oo inta haybaariso hal sana kabacdi aad tidhaha tamallagta laakiin maxaa kuu bannaan geelii saxaraha aad ka heshay inaad soo qaaddo baadidiisii aad soo waddo inaad haybaariso waliajli alxifdi way kuu bannaantay laakiin maxaa la diidi geelii saxaraha ahaa inaad tidhaha hal sanaan haybaarin intaad ka soo qaaddo kabacdina waa milkina midda la diidayo taas qaala markaasuu wuxuu yidhi haddana ninkii saa'ilka ahaa fadaalatu اlghanami maa sha'nuhaa ariga baadidiisii arrinkiisuna muxuu yahay qaala markaasuu rasuulku sala allahu alيh wasalam laka arigaa adigu kuu sugnaada adaa qaaday oo amase liakhiika almuslim ama walaalkaa kaloo muslima baadidaas qaadayo xafidaya markaa kabacdina haybaarinaya markaa kabacdina milkinaya ow amase haddii adigu aad qaadi weyso baadida ariga ama walaalkaa kaloo muslima uu qaadi waayo lidi'biyu u sugan waraabaa cunayo marka waraabaha laga celiyu ula jeedaa rasuulku sala allahu alيh wasalam oo ariga iyo xayawaanaadka aan isdifaaci karin ha la qaado ula jeedaa rasuulku sala allahu calayh wasalam marka imaamu albukhaari raximah llahu tacaala xadiiskan ulajeedada uu ka leeyahay waxaa weeye faqadiba xata axmarat wajnataah maxaa yeele xukumkan iyo masaladan horuu u soo sheegay rasuulku sala allahu calayh wasalam ima liannahu kaana nahaa qabla dalika can iltiqaadiha geela meel cidlaa iska marayo saxaro maraya baadidiisa in la soo qaado hadda ka hor uu nahiyey rasuulku sala allahu alayh wasalam isagoo nahiyu haddana ninkii haddana su-aala marka maxaad hore u fahmi weyse wey masalada horaan buu u sheegay maxaad u fahmi weyse ula jeedaa rasuulku sala allahu alayh wasalam qaala imaamu الbukhaari raximah اllahu taعala xadaثana moxamed bn اlcalaa w abu kurayb takarara kaثiira wmiraaran fi saxiixi muslim min rijaali اljamaaca qaala markaasuu wuxuu yidhi moxamed ibn اlcalaa abu kurayb xadaثanaa abu usaama waa xamaad ibnu usaama ula jeedaahe can buraydin isnaadkan isagoo sidiisa imtixaana waa shuyuukhdani waxaan ku soo marnay baabu fadli man calima wa callama baabkaas sidan isagoo u tixana xadaثana moxamed ibn اlcalaa qaala xadaثana abu usaama saasaan ku soo marnay can buraydin can abi burdata can abi muusa alashcari isagoo waxba ka bedelnayn ayaan baabkaa ku soo qaadanay baabu fadli man calima wa callama xadaثana moxamed ibn اlcalaa qaala xadaثana abu usaama xamaad ibnu usaama can burayd bn cabdillaahi اlkuufi can abi burdata waa min nasl abi musa alashcari can abi musa alashcari qaala wuxu uhi abu musa alashcari su'ila الnabiyu nabigaa la su-aalay salى اllahu wasalam wbaaraka calayh can ashyaa ayaa la su-aalay rasuulku salى اllahu alيh wasalam ashyaadaasoo karihahaa rasuulku uu kahduu dhibsaday waxyaalo markaas rasuulku salى اllahu alيh wasalam su-aashooduba uusan muhim ahayn ama su-aashaba cinaadba loola jeedo ayaa rasuulkii la weydiiyey salى اllahu wasalam wbaaraka calayh falamaa ughira calayhi rasuulka markii lagu farabadiyey salى اllahu alيh wasalam su-aashii qadiba rasuulku waa carooday salى اllahu alيh wasalam ثuma qaala linnaas markaasuu rasuulku salى اllahu alيh wasalam dadkii wuxuu ku yidhi saluunii su-aala camaa shaygaasoo shi'tum aad doontaan waxaad rabtaan marka su-aala haddii su-aashii aad igu badiseen wax walba maanta waa idinkaga jawaabah rasuulku salى اllahu alيh wasalam xanaaquuna ula jeedaa rasuulku salى اllahu alيh wasalam hadalkaa qaala rajulu ninaa wuxuu yidhi marka man abi aabbahay rasuulka ilaahay waa lagu murmeeye waa kuma aabbahay qaala markaasuu wuxuu yihi rasuulku salى اllahu alيh wasalam abuuka xudaafa
aabbahaa waa xudaafa faqaama aakharu nin kale haddana istaagay faqaala markaasuu wuxuu yidhi ninkii kale man abi aabbahay anna waa kuma yaa rasuul allah qaala wuxuu rasuulku sala allahu alay wasalam abuuka saalim aabbaha waa saalim mowlaa shaybe ah falamaa ra'aa cumaru cumar markuu arkay ma ay ladii kii fii wejhi rasuulka wejigiisa ku suganoo sala allahu alay wasalam min alghadabi xanaaqa iyo cadhada ah qaala wuxuu yidhi markaa cumar bnu alkhadaab yaa rasuul allah rasuulka ilaahayow innaa natuubu ila allah caza wajal ilaahan u toobad keenaynaa xasbuk intaan noogu sin rasuulka ilaahi sala allahu alayh wasalam waan kaa caraysiinay waxyaale aan loo baahnayna waan ku weydiinay ilaahanna uga toobad keenaynaa su-ul adabka oo xadradaada aan ku samaynayna adab darradeenna ilaahan uga toobad keenaynaa rasuulka ilaahayow saasuu sayidina cumar uu markaa yidhi marka bukhaari raximahu llahu tacaala xadiiskan ulajeeddada uu ka leeyahay waxaa weeye caalimku inuu caroodo mar haddii su-aaluladab yacni hadduu arko qofka daalibkaa su-ul adab hadduu ku arko baabu man baraka calىa rukbatayhi cinda alimaami aw ilmuxadis haadaa midkani baabu man shaksi ayuu u baab yahay shaksigaasoo baraka fadhiistay calaa rukbatayhi labadiisa jilib ku fadhiistay cinda alimaam imaamka agtiisana labadiisa jilbood ku fadhiistay aw ilmuxadisi cinda almuxadis ama sheekhii muxadidkaa wax ka baranayay agtiisii labadiisa jilib ku fadhiistooo si aadaab iyo tawaaduca u fadhiistay ayuu u baab yahay oo imaam albukhaari raximah llahu tacaala baabkan wuxuu ku soo aroorin doonaa qofka daalibulcilmiga ah habka uu u fadhiisanayo usluubka uu u fadhiisanayo ugu quruxda badan inuu yahay aljuluus calaa rukbatayh labadiisa jilib inuu ku fadhiisto ayaa ugu wanaagsan usluubka daalibka iyo dhaqanka saxaabaduba inuu sidaa ahaan jiray qaala alimaam albukhaari raximah llahu tacaala xadaثanaa abulyamaan qaala akhbaranaa shucaybu can الzuhri saana isugu xigaan mar walba cashirka haddaan kusoo marnay qaala wuxuu yidhi akhbaranii anas bnu malik ana rasuula اllahi salى اllahu alيyh wasalam qaala wuxuu yihi rasuulka alle ana rasuul اllahi rasuulka ale salى اllahu alيyh wasalam kharaja wuu soo baxay rasuulka ale salى اllahu alيyh wasalam faqaama cabdullahi bnu xudaafa cabdullahi bnu xudaafa istaagay faqaala markaasu wuxuu yidhi man abii aabbahay waa kuma faqaala markaasu wuxuu yihi rasuulku salى اllahu alيyh wasalam abuuka aabbahaa xudaafatu waa xudaafa aabbahaa riwaayadana waxay caddaynaysaa ilku inuu yahay yacni saxaabigan la yidhaaho cabdullahi bnu xudaafa oo riwaayadii hore nooma sheegin magaca saxaabigu inuu yahay cabdullahi bnu xudaafa saluunii cama shi'tum qaala rajulu man abii qaala abuuka xudaafa rajulun waa iska idlaaqday ibhaamay samaysay riwaayadii hore riwaayadana noo sheegaysa cabdullahi in loola jeeda cabdullahi bnu xudaafa ثuma akhara waa farabadiyey an yaquula inuu yidhah rasuulku salى اllahu alيyh wasalam saluunii saluunii weydiiya waxaad doontaan maanta fabaraka cumaru cumar waa fadhiistay calىa rugbatayh labadiisa jilibuu ku fadhiistay faqaala sayidina cumar wuxuu yidhi radinaa billaahi rabba ilaahan ku raali noqonnay rabban min rabbi xagga rabbinimadan ilahay uga raali noqonnay wabilislaami islaamkana raalliyaan ku noqonnay diinan min diinin xagga diinta ayaan islaamkana raalli ugu noqonnay oo diinteennii shaki noogama jiro rabbigan shaki noogama jiro wabimuxamedinna waa ku raali noqonnay sala allahu calayhi wasalam nebiyan min nebiy nebiniman ugu raali noqonnay oo nebinimadana shaki noogama jiro rasuulka ilaahi sala allahu alayh wasalam fasakata markaasuu rasuulku aamusay sala allahu alayh wasalam markii cumar ibnu khadaab markaas uu soo gelliimay oo ka gelliimay wixii jalsada ku dhacay oo su-ul adabkii su-ul adabkii xalqadii cilmiga ku dhex dhacay markuu ka soo gelliimay sayidina cumar rasuulku markaas waa aamusay sala allahu wasalam wabaaraka caleyh xadiiskana in badan uu soo celcelin doonaa oo munaasabaad kala duwan ayuu sheekhu u soo celin doonaaho xadiiskan wuxuu ku sheegay kitaabuulcilmi hadda aanu marayno uu ku sheegay wuxuu haddana ku soo celin doonaa kitaabu salaad wuxuu haddana ku soo celin doonaa sheekhu kitaabulictisaam kitaabulictisaamna sheekhu waa ku soo celin doonaa muslimka baan ku soo marnay xadiiskan baabu fadaa'il الnabiy salى اllahu alيه wasalam fadaa'ilka nabiga mucjizaadka nabiga ayaan ku soo marnay saxiixu muslimkii baabu man caada alxadiida ثalaaثa liyufhama canhu haadaa midkani baabu man shaksi ayuu u baab yahay shaksigaasoo caada alxadiisa xadiiskii warkii soo celiyey ثalaaثan saddex goor warkii ku soo celceliyey liyufhama likay yufhama canhu si xadiiskii loo fahmo canhu shaksiga xaggiisa looga fahmona saddex goor ku soo celceliyey abwaabtii cilmigu weli ku dhex jiraa sheekhu baabkan wuxuu ku soo aroorin doonaa sida wanaagsanee sunnadu ay tahay qofka caalimku haddii hadalkii iyo jumladii uu sheegay uu is yidhaaho lama fahmin inuu saddex goor uu ku soo celceliyo bixasabi alxaaja marba baahidu intay keenayso inuu ku soo celceliyo hadduu is yidhaaho lama fahmin faqaala wuxuu yidhi rasuulka ale salى اllahu alيyh wasalam alaahoy wa qowlu zuuri hadalka beenta wuxuu ka mid yahay kabaa'iru dunuub dembiyada waaweyn famaa zaala kama zuulin rasuulku salى اllahu alيyh wasalam yukariruhaa kelimadaas inuu ku celcelinayo fii majlisihi majliskiisina uu ugu celcelinayo rasuulku kama zuulin salى اllahu alيyh wasalam hadda waa qidcatu xadiisin dawiil xadiis dheeru sheekhu soo goostay muraadkiisiiyuuna sheekhu ku soo gaabsado famaa zaala yukariruhaa inuu in badan rasuulku salى اllahu alيyh wasalama uu ku celceliyey
oo bukhaariga dhexdiisana hadda waa noogu iman doonaa kitaabu diyaad ayuu noogu iman doonaa alaa unabi'ukum biakbari alkabaa'ir lafdigaasaa ugu horrayn doono kabaa'irta kuwooda ugu waaweyn ma idin sheegaayo rasuulku sala allahu alayh wasalam alaa wa qowlu zuur famaa zaala yukariruhaa وقال ابن عمر وحuu yihi cبد الله بن cمر قال النبي نبgu wuxuu yihi صلى الله عليه وسلم xaجة الوداع markuu dadkii wacdiyey oo uu waaniyo addunya aakhiraba rasuulku salى الله عليه وسلم khayrkoodii uu u sheegay hal ballaqtu ma gaarsiiyey xaqii iyo diintii ثaلاثا saddex goor ayuu hadalkaas yihi rasuulku salى الله عليه وسلم saddex goor rasuulku salى الله عليه وسلم kugu celceliyey waa اhtimaaما بشأن التabliiغi shأniga gaarsiinta ayuu ka murgaayey rasuulku salى الله عليه وسلم marka qidco ama jumlo caalimku aad is leeyahay ha la xifdiyo ama ha laga murgo uu is leeyahay waa ku celcelin karaa hadduu is yidhaha hadalkii si qumaatiyo toosa lagaagama fahminna caalimku waa ku celcelina qaala الإمام البخاري رحimه الله تعالى xadaثنا cabdة وcabdة بن cabdاللahi بن cabdة الصفاr waa min rijaal الجamاعة ilaa msلما kitaabka صaحيح msلم maahane inta kale uu ku soo arooray sheekhan cabdة بن cabdاللahi بن cabd الbصri الصفاr qaala wuxuu yidhi xadaثنا cabdالسمد بن cabdالوارث ula jeeda cabdالسمد بن cabdالوارث الbصrigi haddaan soo maraynay qaala xadaثنا cabdاللahi بن المثنى waa waalid محamed بن المثنى محamed بن cabdالlahi بن المثنى aan صaحيح msلم ku soo mari jirnay محamedka oo wiilka aan soo mari jirnay hadda aabbihii aan marayna cabdالlahi بن المثنى ah محamed ibn cabdالlahi بن المثنى oo waalidka ah yacni weladka ah weladkaasi takarara kaثيirا وmiraaran في صaحيiحi msلم laakiin waalidka oo cabdullaahi bnu lmuhanى lam yarwi canhu muslimu shay-an imaam muslim waalidkan waxba kama warin laakiin bukhaariyaa wax ka wariyey waalidka oo cabdullahi bnu lmuhanى albasri ah oo muhanahan isaga naftiisa oo cabdullaahi dhalay cabdullahi bnu lmuhanى muhanahaas waxaa la yidhaha muhanى ibnu cabdillaah ibni anas ibni malik waa min nasli khaadimi rasuuli اllahi salى اllahu alيه wasalam anas ibni malik anas ibni malik oo khaadimi rasuuli llahi salى اllahu alيه wasalam ayuu galaa oo uu ku abtirsadaa sheekhan cabdullahi bn المثنى xadaثana cabdullahi bn المثنى waxaa waalidkan oo cabdullahi bn المثنى wax ka wariya bukhaari iyo tirmidi iyo ibnu maaja saddexdood waxbay ka wariyaan qaala wuxu uhi cbdullahi bn المثنى xadaثana humaamaةu bni cabdillaah humaamahan isaguna waa humaamaةu bni cabdillaahi bni anas bni malikin humaama waa humaama ibni cabdillaahi bni anas bni malikin khaadimi rasuuli اllahi salى اllahu عalيه wasalam waa min nasli anas bni malik awlaadiisii عن أنس عن النبي صلى الله وسلم وبارك عليه أنه رسولك عليه صلى الله عليه وسلم كان وxuu jiri إذا سلم hadduu qoom salaamayo سلم waa salaami jiray ثaلاثا saddex gooruu salaamta rasuulku salى الله عليه وسلم kusoo celceli jiray السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم laakiin su-aashu waa hadday tahay salaamtu salaama استئذاan أو khaafa أنه لم يسمع hadduu ka baqo labadaas arrimood hadduu is yihah salaamtii lama maqlin saddex gooruu ku celceli jiray rasuulku salى الله عليه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم saddex goor ku celceliyi jiray rasuulku salى الlaه عليه wasalam wuxuu kaluu salaamta saddex goor ku celceliyi jiray rasuulku salى الlaه عليه wasalam haddii salaamtu tahay salaamu isti'daan oo guriguu rabaa inuu idan weydiisto guriguu idan weydiisanaa السلام عليكم ورحمة الله وبركاته waa la maqli waayo dana السلام عليكم ورحمة الله ku celceli jiray saddexdaa kabacd haddii la maqli waayo waa iska tegi jiray rasuulku salى الlaه عليه wasalam أنhu kaana wuxuu ahaan jiray rasuulku salى الlaه عليه wasalam idaa salama hadduu salaamo qoom سلم waa salaami jiray ثaلاثا saddex goor uu salaami jiray وإidaa تakalama bikelimatin kelima hadduu rasuulku uu ku hadlayana acadahaa kelimada rasuulku salى الlaه عليه wasalam ثaلاثا saddex goor uu rasuulku kelimada celceli jiray laakiin kulu الkelimaad loolama jiro kelimo kasta inuu saddex ku celceli maxaa xadiis badanaan soo marnay oo hal mar nabigu ku dhawaaqi jiray salى الlaه عليه wasalam laakiin waxaa loola jeedaa idaa khashiya cadama الfahmi hadduu ka baqo kelimadaas lama fahmin hadduu is yihaaho saddex goor rasuulku salى الlaه عليه wasalam kelimada uu ku celceli jiray ama xataa hadduu la fahmay laakiin uu ula jeedo yacni an taqarara wa tahbuta fii quluubi الnaas ihtimaaman bisha'niha kelimadan wuxuu rabaa dadka qalbigooda inay si fiican uga daadegto oo sha'nigeeda in kelimadaasi culus tahay uu dadka uu rabo inuu dareensiiyana kelimada waa ku celceli jiray sida kelimadii hal ballaqtu rasuulku salى الlaه عليه wasalam uu yihi qaala الإمام البخاري رحimه الله تعالى xadaثنا cabdة بن cabdالله والله baabkan aan iska dhamayno baabka kalaaba noo dhow قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا عبدة بن عبد الله قال حدثنا عبد الصمد وإسنادka haddaan soo marnay naftiisii rijaashii قال حدثنا عبد الله بن مثنى قال حدثنا ثمامة بن عبد الله عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا تكلم بكلمة أعادها ثلاثا حتى تفهم عنه إلى رسولka laga fahmo صلى الله عليه وسلم وإذا أتى على قوم hadduu yimaadana فسلم عليهم qoomka uu salaamana سلم عليهم qoomka ثaلاثا saddexuu salaami jiray waxaana lagu xambaaray macaanidii haddaan soo marnay قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا مسدد قال حدثنا
قال حدثنا أبو عوانة وضح بن عبد الله اليشكري عن أبي بشر جعفر بن إياس البصري عن سمر جرني عن يوسف ابن ماهك يوسف بن ماهك المكي من رجال الجماعة حديث كان مع إسناده من غير تغيير إسناد كيسا وحبا إيا متن كيسا وحبا لقى بدلنبا وحان صومرني باب من رفع صوته بالعلم رجاشيسا إيا متن كيسا وحان صومرني بابك باب من رفع صوته بالعلم إلا كلي وحا كبدلنا حدثنا مسدد بس باب كاس كبدلنا وباب كاس وحان صومرني بدل حدثنا مسدد بدل كيسي حدثنا أبو النعمان ونوها حق حدثنا أبو أنت كلو أسلم دون حدثنا مسدد قال حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن يوسف بن ماهك عن عبد الله بن عمرو قال تخلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وقدال مري في سفر بحيث كو قدال مري سفر كاسو سافرناه سفر كان سفرني فأدركنا وأن سوق جاري رسول صلى الله عليه وسلم وقد حال أرهقنا أن ضبولني صلاة أن ضبولني يعني صلاة وقت يدي أن قارني صلاة العصر أي لولا صلاة العصر كان قارني ورواية مسلم في صحيحه سدا سيبا هانجرتي لكن حقكم أن صومرين حق مركان مريني باب من رفع صوته بالعلم لفظ صلاة العصر ذن كما جيرين رواية لفظ صلاة العصر كجرتا رواية مسلم في صحيحه أنا ستة سيبا وجرتيو 10 كي حقا كسو براروجيني متن مسلم إني كجرتي صلاة العصر والحال نحن أنغو نتوضأ أنغو وسق هذا أي رسولك نسوق جاري صلى الله عليه وسلم فجعلنا وحن قد قالنا نمسحنا مسحنا على أرجلنا اللغهنا فنادى رسولك وضع واقي صلى الله عليه وسلم بأعلى صوتك يسميش وفق شهر بدنيت أي رسولك واقي صلى الله عليه وسلم ويل للأعقاب من النار ويل لأصحاب الأعقاب عربيالك أصحاب تدو هلاك وسقنادي من النار تحققوا هلاك وسقناد ضدك عربتك كتجي عربتي وقللا أن وسدي لما يسترينين وأهل النار ورسولك صلى الله عليه وسلم مرتين لبقر أو مثل 3 سدح ورسولك كوع العلي صلى الله عليه وسلم سبحانه وتعالى